بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد waxaan filayaa marka hore waxaan u baahannahay inaan sameeyno hordhaca sidee bay sideedaba lacagu isku bedelaanay lacagihii lacagaha suuq ugu soo biiraan xukum lacagna ku qaataan marka labaad inaan u soo gudubno lacagahan hadda laga hadlayo oo hadda bitcoin ay ugu caansan tahay kuwa kalena ay jiraan oo qaarkood cirbinayaan oo la ku soo daba jiraan dhici kartana berida mana kuwa cusub inay soo baxaan ay dhici karto kadibna aynu wax ka niraahna qaybta saddexaad waxyaabo badan oon lacagaha ka shaqaysigooda ahayn laakiin shaatigeeda loo gelinayo oo ganacsiyo musuq maasuq iyo martaba ah laakiin dadka shaatiga lagu gelinayo marka kuwa lacaguhu طبعا حلقة النبي الله صلى الله عليه وسلم ذهب يا قلن أما فضة بين العقد هانجرتي العقدنا درهم يا دينار بلد يشتري سيدي بي هانجرتي دولة الإسلام كمركي ويناتي كان عسي يدون آدو بطل دولكينا وآدو كلفوق هذه هلك الدولة دي اسكو حلناها وحدودها تشينا إيو مال هدا أمو قطا عاصمة جنيف سويسرلاند iyo u muuqata iyo Yurubtaas iyo islaamku meel fog gaaray saas tahay haddana hal dawlad intiisa badan laga maamulay mararka qaarkood laba arrimood baa dhacay marka arrinta koobaadi dadku ganacsigii batay yaa loo baaday lacagahan dahabka iyo dirhamka iyo diinaarka maadaama ay maada macdan ah oo la dhalaalinayo ay yihiin in astaanna loo sameeyo wax isku jaan go-anna ay noqoto dowladda islaam dowladda muslimiinta faragelisay dowladda qiyaaska intuu dirham ku la ekaanayo diinaar ku la ekaanayo u dejisay kadib astaan iyo shaabad daraahimtii iyo danaaniirtii muslimiinta ay u sameeyeen marxaladaasi kalsoonida iyo xakamaynta miisaanka iyo qaabka jaangoynta ahayd kadib waxaa soo baxday laba arrimood oo kala soo baxay oo kala horeeyay markay dowladdu muslimiintu xilligaas ganacsiga iyo wax isweydaarsiga meelo fogfogna waxbaa laga kala gadan jiray oo geeskaa wixii laga keenaa geeskaa la geen jiray wuuna batay ganacsigii lacagtii xambaarideeda dadka safraya ee meel fog aadaya ee ganacsiga weyn leh dee lacagtii si loo qaada way adkaatay waxaa labaadoo intaynan aada u sii badan intaa la xiriiray dahabkii iyo qalinkii la hayay iyo lacagta in la daabaca loo baahday baahidii baa ka badatay dahabkii suuragalka ay la hayay waxay noqotay in la helo wax lacagna noqda baahidiina daboola oo tiro badan yeelan kara markaas lacag fuluus la dhihi jiray oo tan macdankii hadda inaga shilinkeena iyo kasar ku saabsan sababtaas ay ku soo baxday markii lacagtii dahab iyo dirham iyo diinaar inta laga tagay kuwaas lacag laga dhigay khilaaf baa bilowday laleeyahay dahabkii iyo qalinku ama fidadu sidooday qiimo u lahaayeen haddii lacagnimadoodu xataa meesha ka baxdo intii la shiilaa wax kaleoo qiimaho gadma laga dhigan karaa laakiin bahashan macdanka iyo haddii la dhalaaliyo waxba ma noqonayso saa darteed ma lacag baa mise ma aha xukunkii dahabka iyo fidlada marka la isku gadayo sarifkii iyo ribadii ma qaadanaysa markii baabu zakaad la yimaado ma iyadaa laga zakayno iyada lafteeday zaka ku baxdaa mise waa sida badeecadda dharka iyo raashinka la kala gadanayo oo kaleeto runtii khilaaf fuqahadii hore fuluustu axkaamu naqdi iyo thaman ma qaadanaysa mise qaadan maysa la yidhaahdo baa muddadii hore jiray markii ay qabsatay dowladdiina ay aqoonsatay oo dowladdu ay soo saartay dadkuna kalsoonidii siiyeen khilaafkii iyo murankii uu sii yaraaday ilaa la dhihi kara waa laga gudbay waxay noqotay in loola macaamilo axkaamtii lacagta oo kaleeto fuqahadii hore waktigaa joogtay kutubtooda haddaad akhrido
murankan waad ugu tagaysaa fuluustu ma lacagba axkaamta lacagta ma qaadanaysa mise qaadan mayso muddo markay socotay iyadii way ka fududay dahabka iyo fidada wayna daboolayso way ka badnayd baahidii muddo markii la socday waxaa sii batay culayskeedii see loo qaadi nin baa 1 milyan oo shilin raba inuu 100 kilomitir meel ama 500 kilomitir sirta geeyo mise gaadiidu u baahan yahay marka waxaas oo dhan see loo xambaari see loo qaadi kadib dawladdu markuu amniga daciifay burcad iyo jidgooya iska bilaabatay waxaa soo korodhay khatar labaad khatar baa timid jidkii baaba lagugu dhiciba wax la qarin karana maaha markaas waxaa bilaabatay in qofkii lacag badan haysta gobol kalena inuu u safro rabo wax u doonto inuu raadiyo qof halkan lacag uga baahan halkaana lacag u taalo oo markaa waraaqu u qoro uu yiraahdo markuu ka qaatay hebel markaa tagto hebel uu lacagteeda ninkan hebel asii la isku amro oo lacagtaadii halkan aad wax kaga gadato isna meesha markuu tagay jidka isna uu ka badbaado adna taadii jidka la soo marin lahayd ka badbaado mas'aladaas khilaaf baa ka bilowday iyadana arrintaa markay halkaa maraysay khilaafka bilowday laba qayboodba ka mid bay ahaayeen waxaan uga sheekeynayaa waxaan inagu cusubay khilaafkii soo dhici jiray oo kale u dhaliyay lacag ku cusub bay ahayd warqad ku cusub bay ahayd waxaa la isweydiiyey markii u horreysay haddaba waxa su-aashu ka timid waxay ahayd warqadan qofka la siinayo lacagtan lacagta lagu bedelayo isku wadanna aan joogin xukunkii sarifka iyo dambiyadina ma qaadanaysaa mise qaadan mayso su-aal meesha ku jirta lacag baa lacag lagu bedelay sarifna waxaa la yaqiinay iyo dambiyadin gacan isaga dhiib inuu yahay 500 kilomitir oo gaadiid caadi ah la raacayana usbuuc ama 4 bir 6 beri baa la sii soconaya ama usbuuc iyo ka badan baa la soconaya axkaamtii sarifka ma la dabaqaya khilaafa bilowday iyadoo sidii jirto baa arrintii haddana wax iska bedelay waxaa dhacday baahi baa timid ninkii warqadda aad u qortay inuu u baahdo meel kale inuu tago oo lacagtiisii wax kaga gato oo qof meeshaa joogo xaggii wax ka raba uu warqaddii ku wareejiyo waxay sababtay magacii in laga daayo hebel hebel sii oo loo qoro qofka warqadan wata markuu kuu yimaado lacagta intaa aan ka qaatay sii magac kuma qorro marka hadda qofkii wuu tagayaa magaalo kale uu tagayaa qof xaggii u socdo warqadii siinaya oo lacag ka qaadanaya badeeca ku gadanaya haddaba qofkii labaadna qof saddexaad buu sii siinaya way dheeraan kartaa silsiladu mararka qaarkood way dheeraano nin waliba culayskii iyo khatartii nabadgelyadii buu ka baqaya halkaa bilmunaasaba mas'alo kale markii sarifka laga hadlayay baa qaar waxaa la yidhi deyn ha laga dhigo ninkan lacagta qaatay deyn buu qaatay ninkanna waraaq buu u qoray okay ninkan deynta bixiyey ee warqadda loo qoray kharash iyo khatar buu ka badbaadaya xoriisi qardun jara nafcan ma noqonaysa mise noqon mayso deyn haddaad qof siinayso kuna danaysanaysa ma banaanay dheh fuqaada nin deyni siiyo igu danaysanaya haddana ma yah iga dul faa'iidaya oo kharash u baaqanayo oo nabadgelyo u baaqanayso masaladii qardun jara nafcan ay xaaraam tahay jamhuur fuqahadu haddaynan itifaaq ba ahayn masaladan ma gelaysaa mise ma gelaysa munaasabadeena hadda maaha laakiin masaa'il baa ka dhashay waxaa badatay warqadii in la isku wareejiyo oo meesha asalka warqadahan lacagta iyo jeekisku ay ka yimaadeen wey xilligaa waxaa loo bixiyay marka saftaja bahashan la isku warwareejinaya masarifba mise ma ah deyn hadday tahay deyn ku danaysi oo xaaraan noqon miya mise maaha masaa'il waktigaa taagnaayo ilaa iyo haddana laga hadla weeye khilaafkeedii okay qofkii haddii aada siiso waxaa la yidhi sarifkii markay bilaabatay jawaabihii rag culimada qaar bixiyeen waxay ka mid ahayd hadda waxaa loo aqoonsaday warqadda saas inay lacagta u dhiganto saas darteed hadduu kaa qaatay warqadaana ku siiyay lacagtaadi waad haysataa waana masalada ay ka dhalatay masalada hadda la yidhaahdo ay fuqahadu carabiga markay culimadu ka hadlayeen qabdu shayki qabdun limuxtawaa jeeg haddaad qaadato waxaa lacagta ku qoran waad haysataa ficlan lacag ahaan uma haysatid laakiin xaq baad u leedahay inaad qaadato aad iyo aad fasax baad haysataa masaladaasoo kale noqotay masaladii saftaja baa la dhihi jiray iyadoo halkaa marayso
waxaa soo baxday warqadan la isku warwareejinayo baaba ka fududaatay suuqiina wax ka gadaysa lacagtaadina aad ku qaadanaysaa intaasoo jawaan oo fulus oo shilima aad qaxayso oo culays kugu filan ha taasi waxay hor u dhici kadib markii wagan dambe ay lacagahan warqada laga dhigay markii hore waxaa la yiri nimanka reer galbeedku markay rabeen dahabka inay ka xaalufiyaan dunida kale bangi adduun baa loo sameeyey lacagaa la daabacan baa la yiri qolo walba waxay daabacan kartaa dhaqaalahoodu hadba intay kay dahaba iska dhigaan aad iyo aad kay dahaba laga xareyn jiray markay lacagahan yimaadeen khilaaf muranaa yimid warqadan kalarada iyo nambarada iyo astaamaha lagu qoray aad iyo aad ma lacag baa mise maaha ma lacag baa iyada zaka ma lagu bixin karaa xukunkii sarifka ma qaadanaysaa markii lacag lagu sarifayo sidee baa loo qiimeynayaa shuruudii sarifka iyo dambiyadii tahayd qasab miya lacagta isku nooca shilinka haddii la isku sarifayo kadib lacagta isku midka ah ee qaarna walaaq tahay qaarna ay macdankii dhagaxa tahay ma hal lacag ba maadaama isku waxay wadan tahay isku wax tahay bise laba kala lacagood weeye oo waa la kala badin karaa marka la isku sarifayo oo 100 shilin oo waraaqa 90 shilin oo warqad isku taalahayd ma siin kartaa iyada alaabtani ma badeecada dharka oo kaleetiya loola dhaqmaya markii murankaas xoog badan baa yimid aad iyo aad markaas xoog badan baa ka dhashay xukun lacageed ma leedahay mise ma laha ahayd murankii muddo kadib isagana waa sii baaba'ay dahab bay ku salaysan tahay diina suuqi ka baxday meesha laga saaray waxaa loo isugu soo ururay waa lacag dahab baan ka soo bilownay fulus baan soo marnay saftajaan soo marnay waraaqahan aan nimid mid walba markay cusub tahay khilaaf iyo muran baa ka dhalanaya shakilaad badan baa hareynaya ha oo axkaamta sharciga waxaan cusub uu qaadanayo baa laga khilaafka taagnaa marka laba qodob qaybtaas aan ku gabagabeeyo aad iyo aad waxaa sababaya khilaafka iyo khilaafku waxa ka dhalanayay waxaa sababaya wuxuu ahaa waxaani marka uu cusub yahay inuu kalsoonidii iyo miisaankii lacag horta waxaa la yidhaha sideedaba waxna lagu qiimeeyo wasiidka ama xiriiryaha wax lagu kala bedeshana ah aad iyo aad dhinaca kale kalsooni iyo aqbalka mujtamaca iyo dadkan haysta baa lacag la yidhahda waa marka la qeexayaba ha markii wixii markuu cusub yahay kalsooni ma wada haysto kow wax ku qiimeyntii dadka intuu wada gaaray qaalib ma noqonin in wax la isku weydaarsadana weli lama wada aqbalin taasi waxay keenaysaa muranka ah ma gaadhay xaddii lacagnimada ay lacag noqoto ma gaadhay mise ma gaadhin aad iyo aad bay saameyn badan ku lahayd haddaba lacag kasta oo timaada waa dabiici inay heer marto hoos ka bilowdo heer dhexa marto heer koro gaadha haddii ay bislaato wey haddii kale dhexda ay ku fashilanto markay kor gaadhana khilaaf badan ka jiri maayo markay hoos gaadhana lacag ma oo khilaaf ka jira lakin dhexda markay joogto isku si dadka ugu faafi mayso deegaanada kala duwanna isku si kalsooni u siin mayso dadkuna markay akhriyaan ama ay tadaba galaan ninba dhinac bay la badanaysaa taasi waa waxa khilaaf keena maxaa ka dhasha halkan waa mas'alo si khalad in badan loo fahmo xukun lacag ma qaadanaysaa mise ma qaadanaysa marka laga hadlayo axkaam khaasa baa laga hadlayaa xalaal iyo xaraam guud lagama hadlayo waa axkaam gooniye lacaguhu marka la isku gadayo hadday isku mid yihiin laba shardi bay leeyihiin hay gadis markay noqoto dayn maaha inay isla eg yihiin iyadoon la kala teginna la kala wareego hadday laba lacagood kala yihiin oo kala duwanna isla ekaansho looma baahna waa saad ku heshiisaan laakiin intaan la kala tegin lala kala wareego wey marka waxaa laga hadlayaa xukun lacag ma qaadatay oo shuruuddii sarifka ma loo shardinayaa haddii xukun lacag qaadatay oodan shuruuddii sarifka ilaalinin baabur ribaa baad gelaysaa iyo iyadunay xaaraan tahay maaha qaabkaad ugu macaamishay baa xaaraan noqonaya ayaa xaaraan ka dhigaya waxaa labaad oo ka dhalanaysa lacag ma gaadhay ma noqotay mise ma noqonin waxaa ka dhalanaya haddii ay noqoto sake ka waajibto ma sida badeecadda iyo dharka kalea looga sakeynaya oo iyadii in lasii qiimeeya lacag kale lagu qiimeeya u baahanta
bas iyadaaba lacagaho lagu qiimeynaya laguna bixinaya أديه axkaamta ayaa la mid ah oo markii fuqaada qaarkood ay ka hadlayaan shirkadaha isku darsiga gaar ahaan fuqaada shaaficiyada aad u adkaysa oo ay mudaarabiya ka hadlayaan mudaarabadu waxay keliya ku eg tahay lacaga aan la kala mari karin oo la isku darsaday cinda shaaficiya dhar la isku darsaday oo shirkad ganacsi ah laguma samayn karo mudaaraba kuma asaxayso أديه lacagtan haddii la isku darsado xukun lacag bay qaadatay waxay ka dhigmaysaa cinda asxaabina shaaficiyada mudaaraba iyo waa lagu geli karaa haddii kale ma asaxaysa wey fuqaha kale ha asixayso laakiin fatwada culimmadu iyo madaahibtooda saameyntaasay yeelan marna ma aha iyada lafteeda xaaraana ma aha oo nin kale sarif lacag bay noqotayna waa shuruudii sarifka in la mariya haddii kale xaaraan bay mucaamaladu noqon buu leeyahy nin kale lacag ma noqoninna sida badeecada kabaha iyo fasilitiga iyo buug iyo qalinka la gadanayay noqon oo ninkii gataaya haddee nacfi leedahay wax xaaraana muunan gadanin ma gadan karti xaaraan maaha laakiin dadku marar badan lacag ma aha marka la yidhaahdo macaamulka o dhan baa xaaraan ay u qaataan maya shuruudii lacagta ma laga rabaa haddii laga waayo waxay gashaa shuruudii badeecadaha kale la kala gadanayo markii aad gadanaysa lacag macdana iyo faraati macdana markaad gadanayso ka samaysa أديه الله وارد ma sidii faraatigii baan ula dhaqanaa lacagtan sidii lacagtii kale aan ula dhaqanaa wey waxa laga hadlaya أديه laakiin yaan loo qaadanin haddii culimmadu qaar yidhaahdaan soo koobaan ani lacag inay tahay ilama aha ma lacag ma noqon lacag ma hadday yidhaahdaan isweydaarsigeeda waa xaaraan lama dhihin laakiin dadku in badan saasay u fahmayaan ama dalabatulcilmiga laftooda qaar saa u qaadan kara intaasi waa taariikhdii hore lacagihii wixii la soo maray lacagahan bitcoin-ta ah bitcoin onecoin lightcoin iyo kuwo kale dabcan waa lacaga netka iyo internetka lagu arko oo electronia ma aha lacaga daabacan oo banaan yaallo ay gacan taabata maaha il baa qabatee gacani ma taabato ishuna sawirkeeduu qabtaa aada website-yada iyo akawnadooda ku arkaysa sawirkeeda si ogta waa aragtaan filaya أديه laakiin lacag inta la daabacay la taaban karo maaha أديه internetka iyo website-ka waxaan ahayn lacag cinwaan leh oo wadan leh oo bangi leh oo meel lagu sameeyo oo lagu xataa lagu hagaajiyo loogu oo gaara lena maaha ilaa hadda waxay leeyihin dadka waxaan sameeyey lama garanayo magac baa la hayaa laakiin waa qofma lama garanayo marba nin baa soo baxoo sheegta haddana waa been baa la dhahaa ninkii ugu horreeyaa sheegtay magaca inuu yahay qofka isaga sameeyey in australian ganacsado u ahay isaga markii dambe beentii lay taa caddaatay lama yaqaana ma rag baa mise waa dumar lama yaqaana ma hal qof baa mise waa koox lama yaqaana ma arrin shaksiya mise dowladaha ka dambeey lama adlama kale wax badan baa la qoraa laakiin wax xaqiiqa oo badan oo aada loo taabto والله راعي كلام ترى niman takhasuskooda qolob waa dadan computerska aada u yaqaana iyo programmingka aada u yaqaana oo wax badan sameeyey kuwa markay sameeyeen kuwa waxyaabo kale oo badan oo ku dhow sameeyey baa jira iyagana dhowr arrimood ay leedahay baa hardan iyo loolan uga socdaa korna way u kacdaa hoosna way u dhacdaa way khasaartaa laakiin intay kor u kacda socotaa badan intay kor u socoto yaa badan laakiin mararka qaarkoodna way jabtaa way dhacdaa faa'iidii khasaaraba ka ganacsigeeda way leedahay dhowr arrimood baa ugu muhiimsan loolanka ka taagan mujtamacaadku hadda lacagaha mas-uuliyadooda damaanaadka waxaa la yaqaanaa dowladaha iskale dowlad walba lacag bay leedahay lacag walbana dowladdu ilaalin iyo damaanad iyo bangi ilaaliyay leedahay soo saara tani waxaas male dhinaca kale dowladuhu iyo hay-adahooda nabadgeliyadu dadka lacagahooda way dabagalaan oo way xakameeyaan way raad raacaan kadibna ama canshuuro badan baa laga qaadaa ama lacagtii markaad wareejinaysa fee badan baa la iska qaadaa iyo khidmad badan baa la iska qaadaa amaba dabagal badan iyo xageed ka keentay baa la isdabagalaa tan ma laho inta badan lama ogaan karo waana akoonkaaga internetka aad ku leedahay oo basswordkaaga iyo waxaaga isticmaashay ood ka jiidood waxaad ku heshiisan isaga u riday adna akoonkaaga lacag lagugu soo shubay caadiga ah haddaad fasarifatay ama lacag baa akoonkaaga dollar ka bixi
waa laga yaabaa dabagal dheer arrintaasi dhowr arrimoodba sharikadihii waaweynaa iyo ganacsatadii wax badan bay u fududaysay lacagihii khaldanaana jid badan bay u furtay aad iyo aad drugs laga sameynayay hubka sharci darrada laga sameynayay waxaa kaloo jid badan u sahashay dadkii muslimka ahaa ee la cunaqabateynaya argagixisa lagu cadaadinayeyna layman bay u furtay ay wax ku helaan dowladaha xakameyn jiray dhaqdhaqaaqa lacagaha iyo ganacsiga iyo wadankooda inaynan xakameyn karin baa soo baxday marka cabsi badan bay dowladuhu ka qabaan in amnigooda ay khalkhal geliso in xakameyntii wadankooda khalkhal geliso in canshuurahooda iyo systemkooda ay khalkhal geliso dhinacaas marka laga eego cabsi guud oo la wada qabo iyo drugs ka shaqeeyay dad bini aadamka iyo dhoofintooda iyo ka ganacsigooda ka shaqeeyay iyo dad iyaga lacagaha argagixisa u yaqaanaan ka shaqeeyay iyo dhaqdhaqaaqa lacagahan aan la xakameynaynin bankina maraynin dowladna maraynin walwal iyo cabsi badan bay ku haysaa waa tahay dhinaca kale dunida nin baa lugta ku wada martay maraykan la yidhaahdo dhammaan dunida lacagaha isu kala gudbaya dollar bay maraan markii yuuroodu ay lacag kale u gudbayso dollar bay u bedelmi kadib dollarkii baa lacagta kale usii bedeli wasiilay noqotay may wuxuu noqday meel dhexda ah oo cidiisu dhaafayso dhan ganacsiyo waaweyn haddii wax la kala gadanayo waa in lacagtaadii dollar laga dhiga dollarkiina lacag kale laga sii dhigo taas wuxuu ka dhigay maraykanku dunida dhaqaalaheedii inuu qolo walba lugta ku martay oo uu ku qasbo dhaqaalahayga waa in la wada ilaaliyaa haddaan dumo waad ila wada dumaysaan aad iyo aad saa darteed dollarku kor hadduu u kaco wadan walba maciishadu kor bay u kacaysa soo arag aad iyo aad hadduu hoos u dhacana wadan kasta waxbaa ka saameynaya loolanka dunida haddaba ka jira EU-da iyo Yurubiyaanku Jarmal iyo Faransiis baa hogaaminaya way rabaan inay ka xoroobaan dollarka cunaqabateyntiisa iyo dhungalkiisa aad iyo wadamadan China iyo Russia iyo dunida kula tartamayana way rabaan inay ka xoroobaan bahalkan dhunta u wada galay ee dhaxda u wada taagan jidkii la maraba isagu taagan ee taraafiga ka ah dowladaha marka waxay u riixayaan inay dollarka meesha kaga saaraan dhinaca kalena inay xakameyn waayaan bay ka baqayaan inta hadda dowladdu waxaan isleeyahay intaan qiyaasay waxay ku maqan yihiin sidee baa lacagahan aan aqoonsanne loo xakameyn karaa dhaqdhaqaaqooda la ogaan karaa shirkadaha ka shaqeynaya wadanka oo dhan iyo neetka iyo sidee baa loo dabageli karaa sidee bay shuruud ku saxiixi karaan caalamku waxaa la yaqaanaa markii sharikada telefoon ay soo baxaan ay wadanka suuq geynayaan ama sharikado net iyo ku shaqeynaya fiber iyo WhatsApp iyo marka la yiraahdo waxaa weeye waa inay wadanka heshiis la galaan wixii amnigooda taabanaya inay intay jabsadaan geli karaan tanna waa in la helaa system la tijaabiyey oo dabageli kara si dowladihii wadamadooda u ogolaadaan oo ictiraafaan aad iyo aad loolanka sidaasi inay saa ku hirgashana way dhici kartaa inay lacagahaasi dumaan ay suuqa mar ka baxaan ama si tartiib uga baxaan way dhici kartaa kolba khatar badanna way leedahay faa'iidooyin badanna dhinaca kale way ka leedahay intaana lacagahan waxaan ka dhihi lahaa ka dhaco gunaanadkaan soo gaadhay iyada lafteeda ma lacag baa mise ma aha dabcan waxaan dunida saameynta kala duwan ku leh waxay ku fiican tahay markii xukun sidaas oo kaleeto waxaa cusub iyo weyn ummadoo dhan saameynaya laga gaarayo in golayaal culamo isugu yimaadeen wadada badan oo culamo ah ra'yi iyo qiimeyn wadaageen oo dhinacyo badan ay ka gedgediyeen bay u baahan tahay aad iyo aad masaladan oo kaleeto masala hal qof inuu iskaga fududaado ay ku fiican tahay ma aha aad iyo aad marka taas lacag ma tahay oo shuruudii lacagta ma laga doonayaa mise lagama doonayo taa halkaasaan u dibdhigaya waxaan dhihi lahaa culimmada Soomaaliyeed in laga shaqeeyo way fiicnaan lahayd gola ay ku wadaagaan xogta laga hayo iyo duruufaha ku xeeran iyo axkaamta sharciga ee lacagta ahayd dhib iyo faa'iido iyo khatar iyo dhib iyo nafci aad iyo aad iyo khatar iyo faa'iido waxay leedahay lagu gorfeynayo siyaabo badan baa loo wadaagi karaa dunida kale culimada muslimiinta ee kalena ay la wadaagayaan aad iyo aad oo wixii wax aqoon iyo cilmi bisil oo salaysan si loo soo saaro soo jeedin lahaa
taa macnaheedu maaha in lagu macaamilo waa xaaraan maaha aad iyo aad macaamil waxay ka dhigan tahay dadka iyagu gelayaay waxaa fiican inay shuruudii lacagtee sarifka ilaaliyaan baa fiican aad iyo aad waa lacag weeye haddaanan dhihin waa qasab ma dhihi karno la way isku xiran yihiin si hadday lacag noqoto xugun sharci ahaan aynay sarif xaaraan u gelin inay ilaaliyaan baa u fiicanoo waxaa la yidhaahdo ixtiyaadka ama qofku inuu digtoonaan dheeraada yeesho laakiin in la sii gado oo la soo gadaay xaaraan ma aha oo markay ugu liidato badeecay noqon hadday badeecad noqotona waa laga ganacsan karaa wixii laga faa'iidayo aad iyo aad hadday lacag noqotona qofkii shuruudda sarifka ilaaliyay uu ka badbaadayaa ribadii isagoo wax la gadi kara gadayay baa haddana arrinta iman karta waa lacag hadhow riba waxay u soo galeen ama riba ay dhuumatay si aadan u dhihin aad iyo aad qaybta ugu dambaysa waxaan rabaa inaan idhaahdo laba arrimood kala qaado aad iyo aad lacagahana laga ganacsanayaa iyo line beena baa loo marayaa wax kala laba ah hay haddaan idhaahno lacag wey ama kaba soo qaadee lacagta ama beriba sidaa culimmadu fatwoodaan xukun lacag wey haddaan idhaahno wax cusub ma aha xukunkii doolarka iyo yuurada unbay qaadani waan garta shirkad online oo ka ganacsata waad samaysan kartaa doolarka sarifkiisa iyo yuurada sarifkeeda iyo bitcoinka sarifkiisa hay adigu shirkadaha laftooda inta aad gasho ilaan suuqa caalami waxaa lagu kala sariftaa lacagaha suuqa caalami ay leedahay dadku intay galaan ay programkeeda loo soo dejiyo oo passwordya loo sameeyo ay accountna yeeshaan bay waxaa u soo baxaysaa iyadoo big boodaysa leh mid jaban buu arkayaa wuu gadanayaa lacagtoodii buu accountku kaga ridanayaa isagatiisa lacagtoodina accountku ugu shubayaa waa tahay biritii oo qaali u arkayaa wuu sii iibinayaa lacagtii buu qaadanayaa sidii doolarka accountka kugu jiray meel isagoo qaali ka aad arkay gadaysaa meel isagoo raqiiska aad ka soo gadanaysaa waa la warwareejinaya ha wareejintii badeecadaha suuqa la wareejiyo iyo lacagahan la kala gada shuruudeeda in la ilaaliyo taasi dhib ma laha laakiin waxa hadda jira intiisa badan sidaas ma aha laba system ganacsi oo xaaraana oo tuug iyo musuq maasuqa oo in badan dadka lagu dhacay baa shaatiga bitcoin iyo wax la yidhahda loo xiray warkaydaa si fiican cabdicasiis waa loo dhegeysto aad iyo aad qolyo ka shaqeeya systemka la yidhaahdo network marketing ama pyramidka ka shaqeeya waxaa inoo iman jiray dad membership ka ganacsada xubin inaad ka noqotay lacag kaga hela mar waxayna dhihi jireen qalab waxbarasho baan haynaa mar qalab korontaan gadaynaa mar dawaan gadaynaa marba waxbay kusoo geli jireen weji aad iyo adigu intaa gado qof haddaad keento laba qof baad keeni commission baad ku leedahay labadiina hadda adiga halka qof ahaa labaa ku hoos timid labadiina min labay keenayaan waa imise waa afar afartiina min labay keenayaan way sii balaaranaysaa sideedii min labay keenayaan 16 16kii min labay keenayaan 32 aad iyo aad min labay keenan 64 saa silsiladii u socon jirtay maalin iyagoo electronic equipment baan haynaale education equipment baan haynaale caafimaad aqaab dawooyin baan haynaale dadkuna ay u galayeen inay membership ka noqdaan marar badan aan ka hadalay oo markii daraasadaha lagu sameeyay 60% ay faa'iidaan dadka memberska ka noqda 94% ay ku khasaaraan oo been ganacsi beena aad iyo aad kuwaasi wuxuu ka shaqeynayaa uu ku leeyahay caafimaad store male warshad male aad iyo aad website-kooda haddaad gasho sida membership u noqon lahayd u keeni lahayd baa la xayeysiin dawla la xayeysiin ma jirto markii sanad la joogo shirkadii way xidhmi shirkad kaloo haddana alaab kale oo networking marketing ku iman networking iyo marketing ka shaqeynaysa waa tahay maxay tahay sababtu waa majmuuc koox isu xiran oo burcada koox waxay joogaan dhowr waxay joogaan Kenya dhowrna waxay joogaan Djibouti dhowr Ethiopia ay joogaan dhowr Tanzania ay joogaan dhowr Uganda ay joogaan dhowr South Africa ay joogaan dhowr markii la xiro tan ay waxoogay dadka kurtaan bay xirayaan dadkii baa la kala bedeli magacana waa la bedeli kuwii Uganda joogay baa la keenayaa Nairobi iyo Kenya
kuwii kala dhan Kenya kala loo joogay diray. Tanzania kuwii Tanzania joogay waa la kala bedeli timetable baa loo samayn aad iyo aad xoogay baa dadka lacagta laga guran kadib waa la xidhi magac kale la bixin haddana waa la kala wareejin maalinka waa kuwa cusub walidaalika kambaniyada aan ka hadlaynay muddo 10 sano u dambeysay mid waara oo raaga male xoogay marka dadka laga gurto waliba dee dadka masaakiinta iyo hawooyooyinka biilka loo soo diriya u badan waxay baadhaan aad iyo aad marar badan baan munaasabaad badan ka hadalnay kuwii waxay keeneen wada Australia laga soo weydiinayay inay dhahaan lacag faa'iido la helayaa network marketing bitcoin maan ka shaqeynaynaa dad baad keeni kartaan network marketing way ugu aad iyo aad u jirtaa waliba Nairobi dan bay hadda sheekada taala ma bilow ma timid aad iyo aad network marketing waa lagaga shaqeynayaa maxaa laga shaqeynayaa taasi xaaraantinimadeedu kuma xidhna bitcoin baa laga shaqeynayaa ama dhar ka shaqee ama sonkor ka shaqee ama dawaan keenide dadka membershipka ka ganacsanaya ay ma banaana inaga shirkado badan oo Nairobi wax nagu soo maray Dixon iyo fulaan iyo nagu soo maray systemkii dadka lagu cayreeyay oo shati bitcoin loo xiray hadda suuqu ka shaqeynaya hay dadku waxay ku weydiinayaan bitcoin waxa beesha yaala bitcoin maaha waa burcadii ganacsatada network marketing laakiin dadkii lacaga internetka oo bitcoin la yiraahdo la jiraa loo sheegay dadkuna ma garanayaan meesha waxa ka jira qayb kale oo burcad ahayd oo ganacsato ahna system kale oo waliba gaar ahaan Nairobi waa hore aad loogu dhacay dhowr iyo 90kii nin sajaad la dhihi jiray baa wuxuu yiri sarif baan ka shaqeeyaa Uganda iyo halkan iyo sida la ii sheegay ma joogin hay 10 milyan oo dollar buu ka dhacay Soomaalida uu ka qaatay ها lacagtii waa lagu keeni bishan 10% baad heli ama 30% baad heli oo lacagtaadii kamida bisha dambe intaasaad heli dhowr bilood dadkii albaabku u furay lacagtoodii buu u qaybinayay kuwa tay keenan buu ku ansiyaa markay wax weyn ku soo dhacayna waxaan waraystay ninkii ugu dambeeyay ninka lacag u geeyay mataqaana yo building aan ku jiray ninka iska labo aad iyo aad halka xafiiskan aan fadhina ka furan yahay Sheekh Manuur Bixi daartaan deganay daartan soo bixi taawama ninka iska labo uu iga warramay 150 ku mangeeyay wili isagoo qolka kale toori lagu haysto aan ogeyn taydii iskaga furdaamiyay isaga rakala lacagtiis ku lahaa aad iyo aad ninkaasi 10 milyan dollars buu ku dhaxay dadka faa'iido go'an baan ku siinayaa oo inta usbuuc 10kii bari intaasaan ku siinayaa bishii intaasaad helaysaa sarif baan ka shaqeeyaa systemkaas muddo hadda 2 sano laga joogana ma doonayo inaan magacaabo nin reer Nairobi oo Soomaaliyeed oo akhyaarta kamid ahaa baa systemka galay lacaga badan wuxuu ka shaqeynayay markaa ma garanayo maana waraysan laakiin dad badan waxaan ka lacag kaga maqan yihiin lacaga badan buu faa'iido go'an bishii siinayaa dadka bishii ayuu faa'iido go'an siinaya 10% waxaan maleynayaa 4% miyahay halka milyan 40 kun buu inse percentage ka noqonaysa أنا حسبنا 4% 4% أفرتن كنا دايته 4% وي 4% وسيني قياس waxa ku dhadhow siday ii sheegeen dad badan oo yiri aadiya lacagan ku darsano lacagan naga maqan iyo lamidka taban dhacday si guud waan u ogaa kadib baan u baahday dad inaan waraysto iyadii sajaad say isaga ekaayeen iyo wixii ka dhaxay aadiya systemkii buu ahaa marar badan waxaan ka hadalay systemka Soomaalida ee suuqa intii $500 laga qaaday bishii inta habeen bishii biil la siinayo lafahaagina way ku yaalaan leeyahay systemkii nooca ahaa baa bitcoin maan ka shaqeynaa baa la yiri inaga hadda Nairobi Bitcalab company la yiraahdo waxa sidaas ku shaqeynaya waa systemkii sajaad iyo dikii kale aan sheegayay iyo iyadoo suuqa yar ka jirtay way systemkan xaraan way kan kii hore sababta taxriimka uu ka duwan yahay tan laba xaaladood baa dadka lagu dhahaa mar waxa lagu yiraahdaa heshiis sanadaad geli bishii intaasaa ku soo dhici example aan dhaho ilaa 5-6 qof oo istibaan statementigoodii Bitcalab akhriyay heshiisyada ku jirayna aan la fadhiistay oo kala duwan hay waa dadkii ugu xog ogaalsanaayay ma aha dadka hadal inta lagu tuuray su'aal banaanka naga weydiiyay su'aalaha khaldan la weydiiyay haddaan halmaamiyo xasuusi sida khaldan loo weydiiyay hadhow sida beenta loogu turjumo aadiya dadkii waxa la leeyahay sanad baad heshiis galaysaa $2,000 baad bixinaysaa bishii 600 baa ku soo dhaxaysa saa loo dhahaya intaas uu qabsanaya ma weydiinaya lafahaygiina
sanadka hadduu dhammaadana waad cusboonaysiin kartaa baa lagu leeyahay maxaa laga wadaa waad cusboonaysiin kartaa badankood ma weydiiyaan ma khasaaraysid waad faa'iidaysaa waad khasaari meesha maba taallaba lacagtan bitcoin-ka la sarrifayo marna kor bay u kacdaa marna hoos bay u dhacdaa labada maalmood ay isku xigteen marna aada kor ugu boodi marna aad bay u jabin dhalinyarada soomaalida ee tooska ugu jira ee reer maraykana maalin dhaweytoon la kulmay waxaan weydiiyey ma khasaartan ha marar baan saacad gudaheed intaasoo $1,000 khasaaraa bay dheh marka mas'alada qofkan lagu leeyahay intaasoo go-aan baad qaadan shaqadii laga shaqeeyay shirkadda ku ahayd faa'iidada khasaaraad la qabtaa ma aha markii hoos loo sii galo bishii 600 baad heli maaha 5 maalmood baad lacag go-aan heli wey sanadkii baa dhammaaday lafahaagii way dhammaadeen waxaa meel u baahan marka waxay tahay ganacsi shirkad ah oo faa'iido mooyeen waad khasaari ayna ku jirin meesha waad khasaari kartaa waa laga yaabaa inaad khasaarinba laakiin mabda'a aqbalka khasaare inuu iman karo meesha haddii laga saaro kuwa lacagtu deyn bay isu bedeli deyn bay isku bedelaysaa ha haddii la yidhahdo ma khasaartid oo lafahaagii waa garanti lafa garanti oo ganacsi galay lafa waxay garanti noqon kartaan ammaano iyo deyn qofkan mar hadduu isticmaalayana deyn bay noqonaya ammaano ma aha oo ammaanada lafteeda kaashka lagu dhiibtay haddaad isticmaasho deyn bay isu bedeshaa aad iyo aad marka lacagtii deyn bay noqotay aad iyo aad lacagtaadii deynka ahayd baad heshiis ku gashay deynkii iyo dheeraad in lagu soo celiyo interest way riba way haddaan deynku siiyo $2,000 $6,000 inay ii soo noqotaan aan ku heshiino xukunka sharciga lacagtan ku dhiibana deyn noqoto xaddii shirkadnimada ka baxdo aad iyo ribo way dhinaca labaad lafahaagii way faa'iidayeen iyagina way baaba'een markii sanadkii dhammaaday lafihii waa eber miisaanka sharcigii ma ogola lafahaygii way faa'iideen iyagina way lumeen wax la yidhaha ma jiro isma qaadanaysa wuu khasaaray wax la gartay way khasaarana goormaa la yidhaahdaa maraan faa'iido jirin example bisha haddaan 6 bilood xisaab xidhno oon $10,000 faa'iidno oon la qaybsanin oon ala badeecadii aan soo cadaynay 10,000 baad haddana sanadkan mar xidhnaayo waan ku celinay 8,000 baan khasaarnay aakhirka sanadka 2,000 baa faa'iida ah oo wixii faa'iido laga dhigayo horta lafihii waa in la kabo aad iyo aad lafii waa in meel la dhigo lafihii oon la kabin faa'iido lama qaato okay aniga faa'iidaan qaadanayay mana khasaaraynay lafahaygina waa eber waa midii Soomaalida aad isku weydiinaysa maanta lafihii way dhammaadeen that means waxay ahayd lacagtaadu deyn baad bixisay deyntaadii iyo dheeraadna waa lagu soo celiyey way taasi macnaheedu maxay noqonaysaa deyn dheeraad shardi lagu soo celiyena waa ribadii lacag $1,000 baan ku siinay $1,500 soo celi way riba nasiicadii waay ribadii deynta waay aad iyo aad halka waxa ka khaldan yahay ee dadka loo khaldayo ay bit kalaab iyo ku shaqeynayaan wax noocaas way sadarteed dadku macaamilka noocan ah ee sharikadahan dhexe ay idinku heshiisyada kula macaamilayaan baa khaldan haddii aan niraano war macaamilkan ay sharikadahan wadaan waa xaaraan maanan dhihin bitcoin sarifkeeda xaaraana maanan dhihin haddaan dhahno bitcoin waa lacag ama waa badeecad waa la kala iibsan karaana kuwana xalaala lama dhihin laba kala meel kala istaagan ha haddii la yiraahdo annaga kuwa sida u shaqeynaya lafahaagii waa garantii leh xaaraantinimadoodu ma kala duwana hadday dhar ka shaqeynayaan hadday raashin ka shaqeynayaan hadday dollar ka shaqeynayaan hadday bitcoin ka shaqeynayaan shaqadooda ma aha waxaan ka hadlayn heshiiskan ay kula galeen baa xaaraana heshiiskay kula galayaan ayay xaaraan kuma xidhna bitcoin waa mucaamil meeshuu galaba xaaraan ku ah kii hore networkingkana waa mucaamil meeshuu galaba xaaraan ku ah ma qana suurada waxaan filayaa dadku su'aalana way ka qabay ka xidhan fahmayaan su'aalaha khaldan nala weydiiya ku gunaanada marka aad iyo aad su'aalaha khaldan nala weydiiya dadkii waxaa lagu soo dhihi sarif online aan ka shaqeynaa oo ku yimaana kula soo hadlo xuli sheekh sarif online ma laga shaqeyn karaa hadii haddii shuruudii la ilaaliyo bitcoin-ka wadaadka waa xalaal buu yiri baa lagu dhihi sarif online ma bitcoin ba ma dollar ba ma networking-kii kala ma euro ba lacagahoo dhan sarifyadoo dhan network online-ka way ku jiraan mid kale wuu kula soo hadlay wuxuu yiri sheekh bitcoin ma xaaraan ba waxaad dhihi maya
حرام ما لكن هذا العقد يصير شرف كوب بلانت وحي بيت كلاب يا نتواكين كشقينا ودادك وحلال بيجري على ولي أبيض dadku in yar baa loo soo dhiibi qaar badan oo kamid ah ma akhriya qaar badan ma hubsanaya kii aad ku celisay su'aasha tirada taas maxaad ka wadaana to suudaan soo weydiiyo هصوه ha أبيض ama su'aal khaldan buu caadi intuu ku weydiiyo buu jawaabteedii meel aan ahayn la aadi saa darteed waxay nagu kaliftay su'aalo inta nala weydiiya ee xukunkeedu cad yahay ood u jawaabi karto inaad tiraahdo 10 su'aal isaga dib u weydiiso waayo hadhow meesheedii meel aan ahayn baa la saaraya وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا أدبنا السلام يا وبرنامج كيني فلنقين تاريخ إسلام كارهان intellectual Islamic history موضوعنا ما أنت إن شاء الله وحنا قندنا طبعا موضوع حقاك يردون موضوع عدي أنه هالكن كسو قدين جري وحن فيليا موضوع سيدنا وكلاء هذا كهر مرة ما لبتشر بنك يعني فيليا إن عن كهالي قيبتنا وحنا قندنا إن شاء الله ما أنت مركي صدحات أما لبعض موضوع كهالي موضوعنا طبعا سأعينك وكاركتان وموضوع حقا لا xiriira xagga islaamic finance la xiriira in yaro kala hordhacana hadii aan ku darsado dabcan inkastoo horta aan idin sheegi doono article kan maanta akhrino cidaan ka soo xiganayo Dr. Professor Mohammed Fadil oo ah caalim masri ah labada aqoonada tan fiqiga iyo muxuu ahaa maadiga PhD ku haysta oo macnaha labadii aqoonadooda kulmiyay weeyaan xagga dambe inuu iman doono warbixin yar kale oo ku saabsan ayaa article kan horta iskala oo qoray aan hadda idin soo tabinayo sidoo kale dabcan aniga idin la hadlayana inkastoo horta de waxaan dhigtay waxaas aan banaan idin sheegin laakiin aanu degree-gayga iyo masterta waxaan ahaa finance waan ahaa Islamic finance ma finance caadi marka mawduucan marka labada dhinac marka laga eego inuu yara xasaasi yahay oo yara muhiim yahay si kale marka loo dhigana de ay xogaa ay munaasab tahay inaan ka hadli karo maan rabin inaan idin sheego hadaba موضوعنا ما أنت إن شاء الله وحنا قلنا أنا موضوع إسلامك فينانس قال حرير كارهان وحنا نسعى علمية سنة وأكاديمية جاه إنه أفضل قيدنا ربضة كارهان ربضة يشتري جرت وقتك ورسولك النورا قرنية تطباس تياد وقتي داس يسوع كله عصرنا إنه ما أنت النور الله أو قرنية كوبي لبطنات ربضة جرتها waxay kala yihiin aynu socodmaysan u falanqeynana waynu kala qaad doonaa hadaba article kana dabcan markastana dadka qaar ba dabcan waxay moodaan mawduucyada aan ka hadlayo inay yihiin mawduucyo fresh ah anigu maskaxdayda aan markasta ka soo diyaariyo dabcan mawduuc kasta oo ka hadlayo cidaan ka soo xiganayo meeshan ka keenay waa idin la wadaaga kana marka saas oo kale mawduucan maanta aan idin la wadaagayo waxa diyaariyay oo boqolkiiba boqol xuquuqda iskale Dr. Professor Mohammed Fadil oo ah caalim masri ah haddana ku nool Toronto Canada jooga hadda dabcan waxaana badana aad u qaada dhiga maadaama uu PhD uu ku haysto fiqiga islaamiga gaar ahaan madhabka maalikiga maadaama Masar ku badan yahay Dr. Mohammed Fadil dabcan artikelada uu badana uu qora ee uu ka hadla waxay ku saabsan yihiin oo Google nimanka dad ku qortaan salaano kale mawduuc xagga islaamic finance la xiriiro oo yara cusub rabta inaad baadho marka article-kii qorto magaciisa raacani Dr. Mohammed Fadil uu ku soo bixi marka artikelada uu badana uu qoro ee uu ka hadlo waxa kamid ah buyuuca iqtisaadka iyo suuqa islaamic economics-ka waxyaabaha ku saabsan dadweynaha experts-ka ee ka hadla ayuu marka uu kamid yahay saan soo sheegnay dabcan nabada cilmiba PhD buu ka haystaa hadaba maanta insha Allah Dr. Mohammed Fadil waxa uu qaab cilmiyeysan oo inoo falanqeyn doona ribada gaar ahaan qarniga 7aad iyo qarnigii 8aad 9aad soo gaarsi ilaa 10aad iyo 10aad ilaa waqtiyada dhaxaba waqtiyada hore dabcan inkastoo de afarteena madhab qarnigii 2 iyo 3aad ay aad muxuu ahay gacanta ugu fariistay macnaha de عالم الإسلامي أنت أقول بدن لا ولا قاتي وحي كدم بيادو وسجود مركا قرنية تضباط قرنية تونات من كوضع وقت جا ربنا يشري شرتي مركا كتبت هنا فقه لجوفها فهن شري يقرنية كويلاتنات ربنا شرتها سيدا وكل دونيين أيون فلانقين دونا حتى هو مركا كوبادي طبعا إنك صد حاجة دم إنه كارك دونا واحد شري مركا فقهنا إسلامي كأه قيبته طبعا كورنتا بيوعا iyo dhaqaalaha iyo marka economics-ka ka waranta waxa uu gabi ahaanba uu ka duwan yahay dabcan casrigan inuu maanta noolahay economics-ku qaabka adduunka u shaqeeyo gabi ahaanba way kala duwan yihiin oo dabcan sababahan inkastoo xagga makaarki doono salahan kale imaka waqtigii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu noolaa iyo saxaabadu hadii imaka lagu dhaho maskaxda waxaad ka qiyaastaa rasuulku qaabka uu tukan jiray hadii lagu dhaho dabcan waa arrin fudud oo rasuulku qaabka uu tukan jiray maadaama kutubteena itusoo taabsi maadaama loo soo ilaaliyay
isla maanta anoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay ka soo wareegtay 1400 iyo dhowr kun sano maadaama ka soo wareegtay isla qaabkii uu tukan jiray isla qaabkii uu tukan karaya laakiin haddii maanta aan dhaho waqtiga uu rasuulku uu noolaa qarnigii 7aad 8aad ahayd waqtigaas bulshadii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku dhex jiray dhaqaalahooda sidoo ahaa iyo qaab nololeedkii ay u noolaayeen ayaan maanta sheebinaya haddii aan dhaho dabcan halka waxa iga soo baxaysa in gebi ahaanba laba nidaam oo kala duwan inay yihiin sababtuna dabcan waxa weeyaan qaab nololeedkii iyo qaabkii loo ganacsan jiray oo gebi ahaanba isbedeshay sababtoo ah maanta waxaynu leenahay lacagaha maanta caalamka laga kala isticmaalo dabcan lacagaha cid baa soo saarta cid baa maamusha central banks baa jira lacagihii maamulaya maantana dabcan dollarka iyo dirhamka iyo dahabka iyo silfarka gebi ahaantoodba way kala duwan yihiin oo qolo kasta markaa dadyow gacanta ku haya oo maamula ayaa jira haddaba dabcan waxyaabahaas xagga dambe aynu ka arki doonaaye inta aynaan gudaha u gelin si yaroo kooban haddaan qodobkan aan ka baxo adigana xataa muuqaalka daawanaya hadda haddii aad rabto inaad bal tijaabiso farqiga u dhexeeyey waqtiyadii dhexe marka dhaqaalaha caalamka siduu ahaa iyo maanta uu siduu yahay dabcan waxaa tusaale kugu filan maanta haddii tusaale ahaan kale aad soo qaado kitaab yar oo fiqi haddaad soo qaado ood kitaabka aad tagto qaybta markaa fasl buyuuca qaybta buyuuca iyo beeca ka warramaysa iyo dhaqaalaha qaybta ka warramaysa haddii aad maanta tagto waxaad halkaa ku arkaysaa in gebi ahaanba kitaabka yar ee fiqiyeed beeca uu ka warramayaa in gebi ahaanba uusan ahayn nidaamka dhaqaale ee maanta caalamka ka shaqeynaya isla saasoo kale haddaad soo qaado buug kale oo marka islamic finance ka warramaya oo intaad buuggii akhrida aad dhahdo haddana fiqigu wuxuu ka warramayaan ula tegayaa dabcan waxaa haddana mar labaad kuusoo baxaysa in gebi ahaanba labadan buug inay gebi ahaanba kala duwan yihiin qofka kaliya ee markaa isla fahmi karaya kitaabkan yar fiqiyeed ee markaa fasl buyuuca waxyaabaha ka warramaya iyo buugan kale ee islamic finance-ga ahi waxyaabaha uu ka warramayo qofka kaliya ee isla fahmi karaya qaacidooyinka iyo waxyaabahaas iyo qaacidan iyo conceptkan meesha laga soo dhandhiriyey qofka kaliya ee fahmi karaya waa qof dabcan faqiih ah oo caalima oo labadii cilmiba si fiican u garanaya uun qof kale oo laakiin caame iska ah oo inagoo kale ah labada buug markuu kala akhriyo dabcan waxaa u muuqanaysaa in labadan buug gebi ahaanba aysan isku jiho aysan u soconin arrintaana dabcan tusaalayaal badan ayaynu ka bixin doonaaye haddaba haddaan intaa aan hordhac aan uga imaado mawduucin haddaba aan u galo marka koowaad haddaba waxaynu ka warramaynaa oo aynu isweydiinaynaa haddaba maadaama aynu maanta aynu ribadoo keliya aynu falanqaynayno marka hore waxaan isweydiinaynaa qur-aanka horta ribada muxuu ka yidhi dabcan waxaa jira qur-aankaba aad ku wada garanaysaan meelo fara badan oo ilaahay uu ribada uu ka warramay laakiin suuradda marka sida ugu faahfaahsan ribada u faahfaahaysaa waa suuratulbaqara dhammaadkeeda gaar ahaan markaa 3 beej ee suuratulbaqara u dambeeya 5 aayadood ee ku jira ee marka ribada ka warramaya aayadahaas haddaba aan bilaabo aayadaha inkastoo dabcan tafsiirkooda aad garanaysaan haddana saan idin xasuusiyo bal xoga aan akhriyo aayadda ugu horreysa marka 5 aayadood ee isku xiga marka aayadda koowaad waxay leedahay qala allahu tacaala aladiina ya'kuluuna الriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu alladii yatakhabadahu الshaydaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu mithla الriba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه إلا أن تسعون ساعات كحيتها وحلا هذا يدنا يمحق الله الربا ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أيضا يوحي شيء يعني متكست وين شيء دونا عاد استحد محل هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين عاد أفراد مركا وحلا هذا عاد لا بقطات التبع يدو وانكبودنا عاد لا بقطات نستيد waxay leedahay fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum princibalkiina leedihiin laa tudlamuuna walaa tudlamuun aayadda u dambaysa markaa ribada ka warramaysa maxay leedahay ee suurat albaqara ku jirta wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayru lakum in kuntum taclamuun aayadaha haddaba markaa 5 ah bal aynu xogaa aynu dul istaagno aayadahan haddaba markaad akhrido waxaa kaaga baxaya aayadahani inay ribo sheegayaan ribadaasina welibana heerka la gaadhsiinayo in markaa waxay aayadahani inoo sheegayaan in ribadu marka ay kamid tahay dembiyada ugu waaweyn ee ilaahay agtiisa laga galo weliba ribadu aayadana qaabka sheegaysa markaad eegto ribadu markaa waa dembiga keliya ee ilaahay marka uu ballan qaaday qofka ribada isticmaala inuu marka ilaahay uu la dagaalamayo waa dembiga keliya ee ilaahay uu sidaa u adkeeyey weliba u fiirso cadaabka iyo dagaalka iyo cidda loo yaboohaya ma aha gaalada aayadahani marka dadkii muslimiinta ahaa ayay la hadlayaan dadkii muslimiinta ahaa ayaa markaa sidaa loogu hanjabaya maadaama haddaba wiciidka sidaa u adag ilaahay qur-aanka uu ku sheegay taas waxay noo cadaynaysaa markaa ribada iyo dee haddaan muslimiin nahay meesha la rabo inaanu iska taagno ayaa markaa cadaynaysaa okay haddaba waxaan isweydiinaynaa ribadan ay aayadahani ay sheegayaan waa sidee ribadan seen u qeexaynaa sidoo kale kutubtii hore ee tafsiirka ahaa waxaa hadlaya waa sheekh maxamed faadil anigu soo teganaya
kutubtii hore ee markaa tafsiirka ahaa ribada markay qeexayeen iyo aayadahan markay tafsiirinayeen sidee bay u tafsiiriyeen ayaynu dul istaagaynaa haddaba u fiirso aayadahani markay ka warramayeen ilaahay muxuu yidhi mar kastoo u fiirso waxaa la isticmaalayaa alriba aladiina yakuluuna riba alif muxuu carabiga waxaa la yidhahdaa alif lam caam oo asha waxaa luqadda carabiga loo isticmaalaa wax la isla garanayo marka aayadahani maadaama markasta alriba ay leeyihiin waxay inoo caddaynaysaa aayadahani ribada ay ka warramaysaa inay tahay ribo kontegaska lala akhrinayo oo rasuulka iyo saxaabada iyo dadkii waqtigaa joogay ribo ay isla garanayaan inay tahay okay inay ribo ay isla garanayaan inay tahay iyo qaacida aynu ribada saari doono halkeenu ka soo qaadanayna inagu hadda maadaama de imika muxuu ahaa aynu ku ilaad 14 qarni bar maadaama aynu ka soo dambeynay waxaynu ka soo qaadanayna haddaba kutubtii tafsiirka ah ee hore marka la eego waxay noo soo baxaysaa ribadaasi ribada uu quraanku u sheegaya qaabkay ahaan jirtay haddaba waxay noo soo baxaysaa waqtiga qarniga casru jahiligi ribadii la isticmaali jiray inaysan ahayn ribadan maanta inagu aynu isticmaalno oo ribadaasi qaacid culimadu waxay saaraan okay waxba inaan kutubta sheego muhiim ah way ku caddahay artikelkan qofka u baahan dabcan waan u soo diri karaa isagoo dhammaystiran okay ribadaasi waxay ahaan jirtay tusaale ahaan waa laba oo imika shantan ayadoon akhriyay aayadda koowaad iyo aayadda u dambeysa ayaa markaa waxa qaacidan sheegaya aad ka dhex arki doontaan aanu galo ribadan qarnigii 7aad 8aad 9aad iyo de islaam korba la isticmaali jiray ee la isla garanaya waxay ahayd qof baad salaam wuxuu oranayaa hebelow lacag yaa maahay salaam anoo khadara ayaan saaxiibkay Axmed baan rabaa inaan lacag amaahiyo salaam waxaan amaahiyay $100 $100 baan amaahiyay lacagta markaan amaahinayeen shardi kale kuma xirno waxaan ku oran wuxuu yiri Axmedow wuxuu yiri khadara walaalow $100 yaa maahay waan amaahiyay salaam waxaan ku leeyahay waa sax sanadka dambe ka qaadanaya sanadka dambe marka la gaaro January waxa la gaaray sanadkii January waxaan ku yiri Axmedow lacagtiisii $100 ee ku amaahiyay kamaan ku yiri Axmed wuxuu yiri walaalow lacagtii ma hayo oo walideeyo iga kala dhiman tahay masaasaha waxaan ku ornaa marka okay lacagtii ma haysato haddaba waqtigan kugu daraya 6 bilood baan kugu daraya laakiin 6 bilood kadib marka la gaaro 100 kaama raba ee waxaan ka rabaa 130 ayaan ka rabaa masaasaha waa qof baahan hayagu yidhi 6 bilood yaa la gaaray kadib 6 bilood baa la gaaray maxaan ka qaatay 130 imika marka saa u sheegay waxaad u fahmi kartaa oo waxa laga dhahdaan khadar de waxaan sheegin waa ribada naqaano oo fiirsan maxay ka kala duwan tahay waxay ka duwan tahay daba ribadaasi waxa weeyaan waa kow labadan qof markay heshiiska wada galayeen lacagta oo maahinayay in markan dambe aan lacagtii ku kordhiyo maxaa sababay muddadii markii ay gaadhay ayaa qofkani wuxuu awood u yeelan kari waayay inuu lacagta ii soo celiyo أنا ما دام العقد يسوع علوي محن كو خصبي وحن كوري مددان كوغو داريا لكن العقد ود كردنيسا تاسا marka keenaysa maxay taas weeyaan ribada quraanku ka hadlaya waana ribadaas maxay fa'danu biharbi min Allah wa rasuuli okay hadaba inta aan sheegay maxaa cadeynaya inta waxa cadeynaya sida aan imkaan u sheegay waxa ku qoran tahay kutubtii hore ee tafsiirka ahaa waqtiyadii ku qarnigii koowaad labadii saddexaad hijrada la qoray ay ku jirtaa qarnigii saddexaad kadib okay hadaba imika inta aan sheegay maxaa u daliil u fiirso aayadda koowaadi aayadda u dambaysa eeg wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maysara ay leedahay haddii qofkaasi uu lacagtii haynin fanadiratun ila maysara waqti si qofka ka suga taas marka waxa ka dhigan tahay waqtigii hore ee carabti waqtiga joogtay iyo casr jahiligaasba qofku markuu muddadii gaadho hadii lacagti uu keen waayo waqtiga loogu darayo bilaash ma ahayn waqtiga loogu darayo waa loo xisaabin jiray lacag ahaan baa loo xisaabin jiray oo dadkii waqtiga joogay waxay oran jireen waxay u haysteen marka in ribadani inay ganacsiga kale ay tahay marka u fiirso aad hore maxay dhaheen inama albay'u mithlu riba bay dhaheen bay'u ribadu waa bay'o kale wax la kala iibsanayo oo waa ganacsiga kale laakiin ribada hadii la eego ribada iyo ganacsigu iyo wax kala iibsigu isku mid ma aha sababtoo ah qofka markaad wax ka iibinayso tusaalahan hadii maanta laptopkayga aan qof ka iibinayo oo intaan laptopkayga aan siiyo oo lacag ka qaato oo lacagtii anaan kamarad ku soo iibsado waa bayc baa dhacay oo wax kala iibsi baa dhacay laakiin ribadu
iyagu waxa markaa maadaama ganacsiga waxay u haysteen mar kasta oo qofku intuu wax uu qaado intuu wax iibsado qiimeyntii ka badan lagu iibinayo saasa profit saasa lagu sameeynaya faa'iido sadarteed waa saasun laakiin aadan marka ilaahay marka wuxuu inoo sheegayaa in marka ribada noocaasa ee qofka baahidiisa laga faa'iideysanayo oo leeyahay okay $100 ka maahi haddaan hadda isiin karinin muddadan kugu daraya laakiin muddada aan kugu darayo bilaash maaha ee waa inaad lacagta kordhisaa iyagana marka dee xagga maskaxda laga eego waxay islaahayeen waa ganacsi oo kale laakiin ilaahay uu ka diiday sababta aysan ganacsi u ahayn waxa weeyaan qofkan marka uu lacagtii uu keeni kari waayo aad ku leedahay muddan kugu daray laakiin lacagta kordhi aad ku leedahay dabcan qofkan marka lacagtii aad ku kordhiso qofkii wax faa'iido oo la taaban karayo oo dee ood siisay ma jirto waqti baad ka iibisay laakiin wax faa'iido oo alaaba ood siisay ma jirto halkaana marka waxay nooga soo baxaya in dabcan marka in ribadu waliba fiirsa intana qodobka kale u galin waa in kaanadu usratin fanadiratun ila maysra yudi hadii qofkaasi marka uusan waxba haynin oo ku dhaho marka muddadii la gaaro lacagti ma hayo ku dhaho ilaahay wuxuu ku leeyahay muxuu ahaa ilaa inta lacagta keelay waana ka sugtaa maxal si raacay wa an tasaddaqu khayru lakum in kuntum ta'lamun ina sadaqaystaan baa idin khaybar marka halka waxa nooga soo baxay laba daraf in marka sadaqada iyo ribadu inay laba daraf kala taagan yihiin oo sadaqaduna wax ugu wanaagsan iyo darafka ugu wanaagsan ay taagan tahay ribaduna darafka ugu xun ay taagan tahay okay labada daraf maxaa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya beeci iyo ganacsiga iyo wax kala iibsiga ayaa u dhaxeeya marka dhaqaaluhu si guud marka saddexaas ku wareegaya sadaqada oo halka ugu wanaagsan ribadii oo halkii ugu xumeyd halka dhexe oo ah beeci oo labada u dhaxeeya haddaba haddii isla fahnay marka qeexitaanka ribada oo quraanku uu diidaya inay tahay marka maxay waa ribo qof aad lacag ma haysay qofku markii muddadii lagu heshiiyay la gaaro qofka hadduu waqtiga muddada uu ku keeni waayo in marka lagu dhaho waqtigan kugu daraya oo muddo kalaan 6 bilood 3 bilood 4 bilood baan ku siinaya laakiin bisharti 4 bilood aan ku siinayo inaad bilaash ma ahe waana lacag ii kordhisay maadaama ay ribada hadaba quraanku uu xaaraantinimeeyay fa'danu bixarbin min Allah wa rasuulihi haddaba hadii ay taas tahay u fiirso sababta marka xataa ilaahay uu sirraacay loo yiri marka fa'danu bixarbin min Allah wa rasuulihi waxa weeyaan u fiirso arintan marka waxa u dhigantaa waqtiga hore ribada la isla yaqaanay casr jahiliga la isticmaali jiray tusaalahan kale laba qolo marka islaayaan ama dagaal la galo dagaalka marka ay qolo ku duusho xulooda waa la qaadan jiray oo de qolada lagu xog badnaaday xataa waqtiga hore sababta dagaalada ay u dhici jireen maxay ahaayeen in marka qolyaha lagu duulayo ama qabiilka lagu duulayo in xulooda si xooga lagu soo qaato isla saasoo kale marka ribada noocana ee qofkan miskiinka ee baahan ee marka hore diinta u baahnaa marka dambena markuu bixin kari waayo halkii looga naxariisan lahaa lagu sii adkeenayo ee xoolihiisa looga qaadanayo sidii in lagu duulay oo kale taasa marka keentay in ilaahay uu sidaa u adkeeyo sidoo kale waliba ribada aynu sidaa u qeexnay waxa qeexitaanka aynu saaray inuu sidaa ku cad yahay waxa ku sii cadeynaya marka aayadaha ribadu markay dhamaadaan suuratul baqara waxaad ogtihiin aayada ka dambaysa waa aayada quraanka ugu dheer waana maxay waana aayadu diinta ka waramaysa marka aayadaas dambe ee dheer ujeedada ilaa iyo sababta ilaahay u soo dejiyay waxay ahayd haddaba maadaama ribadii noocaas ee la yaqaan ee caanka ahayd ee dadku ay ku dhaqmi jireen maadaama oo la mamnuucay si marka maxabada laga dhigay si marka arintaas ayna dadku qaar de aynan ugu soo dhumanin waxa ilaahay uu sharti ka dhigay oo la yiri waradaba qofkan miskiinka ah oo diinta qaadanayo si aan lagu sirin qofka marka diinta aad ka qaadanayso waa inaad diintii aad qortaa sidoo kale markhaatin aad u samaysaa u fiirso waqtiga hore waliba qarniga 7-8 qofku de maanta casrigeena qofku inuu wax qoro de wax iska normal oo caadi ah la tahay laakiin waqtiga hore dadku inay wax qoraan dabcan arin iska caadi ma ahayn hatta siradii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaynu ku soo marnay waqtigii rasuulku uu dhalinayay ee uu joogay Maka intii aan loo waxaynu ka hor magaalada Maka oo dhan 4-5 qof baa taqaan sida wax loo qoro dadka kale sida wax loo qoro ma aqoon marka in aayadaasi ay adkayso oo waajib ka dhigto marka diinta la kala qaadanayo in la qoro waliba xataa hadii marka qaar ay suurto maadaama wax qoritaanku oo adkaa hadii ay dhacdo marka qaar xataa hadii waqti loo waayo in wax la qoro aad maxay sheegtay oo salan kale marka safar lagu jiro de wax lagu qoraa lama helin markaas kale maxay aad u sheegtay farihaan maqbuuda kala qaad rahan bad markaas kale aad kala qaadanaysan u fiirso isla saasoo kale waasan sheegay dhaqaale soo kala duwan imaga casrigeena rahan ku qaabka u shaqeeyo iyo waqtiga hore rahan ku qaabka u shaqeyn jiray waa saasoo kale waa gibi ahaan buu kala duwan yihiin oo maanta de waan aqaanaa salaano kale bangi baa diin ka qaadanaysa in kastoo bangi xagga dambe ka arki doono waxa lagu yiri rahankeen oo de waa taqaan soo shaqeeyo yaa dameen ka balona qofkaas ay ka dameena laakiin casriga hore iyo waqtiga hore dabcan rahanku qaabka u shaqeeya gabi ahaan way ka duwan tahay qaabkuna maanta rahanku u shaqeeyo oo waqtiga hore rahanku wuxuu ahaan jiray hadan sala ka bixino salaano kale aniga iyo salaan saaxiibkii Axmed ayaa waxaan ka safarnay salaan Hargeysa muqdisho rabnaa inaan beec iyo ganacsi aan u geeyno marka dhexda sii marinay
ayaa waxaan ku yiri Axmedowniyo alaabtan sideeto waan ka helay oo intaan muqdisho la gaarinba inaan ka iibsadaan rabaa baan ku yiri alaabtan iga iibi waan heshiinay wahay buu yiri laakiin madama de safar aan ahay qofkan lacagan hadda iyo dahaban hadda aan siiyo iyo waxaan hadda siiyo oo ka bedesha ma jiro maxaan ku oranayaa alaabtan iyo waxaan iga iibi laakiin دين هيجو أحاطه مركان مقتصد تكنو أيان ده وحي أنا كل شيء ناقصين يا أوكي ودين سما شرعي محنا جربتها ما دام الدين أو حقوق القاعدين إنه إنا نقرنه سفر بالي هاي واحد حلو قرنا لما هي فريهان ومقبوضة محنا قنيا مركا صلاحنا كلا علاقتنا ربنا كيف سوى واحد ودي كانت صلاحان $100 أنا أساسا كلا واحد نيستا shan neef oo geela oo $100 u dhigma waxaan oranayaa alaabtan waan ka iibsanaya $100 shanteeda neef oo geela ee $100 u dhigma si hay ilaa inta lacagta ku keenayo muqdisho markaan tagno ayaan lacagtiisa siinaya ana shantii neef oo geela ahayn ranka u dhigan waan ka qaadanaya okay haddaba diintii aan ka qaatay maalinka kuleeshii inay $100 ahayd ilaa dadka qaar baa isiri kara Soomaa oo wuxuu qoran kara boqolba ma ahna 200 baa biska qoran kara okay sidee baa loo hadii hadhow maxkamad la isla tago sidee baa lagu garanayaa diintii aan 4 bilood ka hor maadaama safa 4 bilood ka hor aan ka qaatay inay $100 ay seen ku garanayaa waxa lagu garanayaa rahanka aan siinayaa waa inuu ahaada rahan $100 u dhiganta haddii u dhigmaayana fiqigii hore waa sababta keentay fiqi qaybta rahanka in aad looga hadlo oo aad culimo uga hadlaan laakiin de marka waxa soo dhan marka de maanta rahanka saa looma isticmaalo gabi ahaanba de waa wax wada kala duwan okay halkaan marka waxay noo cadeynaysaa dabcan ribada uu quraanku sheegaya ee faadanu biharbi min Allah wa rasuulihi in ribada qeexitaanka kale ee sidaas leh in tahay halkaan inooga cadaatay saatirta daba qeexitaanka aynu soo saarnay hadda ribada iyo tusalaasha aynu bixinay oo dhan iyo intii aan hadlayo oo dhan dabcan intaas oo dhaniba waxa hadlaya Dr. Maxamed Fadil waxa anagu aan iska sameysanayo ma aha laakiin intaas oo dhan aan idin sheegayba waxay ku jiraan iyo tusalaasha iyo waxaas waxay ku jiraan Muwadda ibn Malik ay ku jiraan halkaan marka waxay nooga muuqatay ribadii waqtiga iyo qarniga 7 la isticmaali jiray in ay ahayd marka ribo lala googo ayo qofka deyn qaataha ah oo marka qofka inta wixii la doono inta la maahiyo muddadii markii gaadho sanadkii ama 4 bilood ama 5 bilood markay dhamaato qofkii miskiinka ah lacagta iska bixin kari waayo oo lagu oranayo waxaan kugu darayaa marka 6 bilood dambe aan kugu darayaa laakiin bisharti waanad inta ku kordhisa la oranayo ribada noocaasa maadaama ay tahay hadaba midda uu quraanku uu xarimay isla saasoo kale hadaba hadii ribada noocaas aysan shariicada ogoleen isla saasoo kale marka shariicadu waxay hadana ay ugashahay oo kutubtii hore ee marka tafsiirkana ku qoran salaala ay ka bixinayaan in marka xagga diinta marka dhinaca kale loo bedelo oo qofka salaano kale alaab qofku iibinayo uu deyn ku iibinayo qiimihii la siin jiray qiimo ka badan inuu ku iibin karayo macnaha taa waxa ka dhigan tahay hadii aad qofka alaab ka iibinayso oo ku leedahay warniyo hadii alaabtan aad hadda iibsanayso laptopkan hadda aad iga iibsanayso waa $500 laakiin laptopkan hadda aad iga iibsanayso oo laakiin lacagtiisa sanadka dambe siinaysan waa $700 haduu qofka alaabta iibinaya uu heshiis noocaas oo qofka kula galo dabcan iyadu taasi ribo ma aha wayna banaan tahay salaha aan sida u sheegnayna marka on laptopka aan ahayn kutubtii hore ee marka tafsiirka ahaa way ku qoran tahay okay maxay ku kala duwan yihiin meesan xiradaas ahayn xagga dambe ku arki doonaa haddana haddaad isweydiiso markuu diinta qaadanaya sida lama ogole marka alaab laga iibinayo maxaa qiimaha loogu dalacayaa qofka hadii uu dhahana dabcan waxa sababtu waxa weeyaan waxa kala duwan shayga qofkan iyo waxa loo qabanayo marka hore ee qofka wax la maahinayo ee lacagta la siinayo markii lacagta la maahinay aan lagu oranin marka dambe lacagta soo gudi doonto intaas ku bir doonto aan lagu oranin laakiin marka muddadii la gaaro ee baahidiisa la arko baahidiisa inta looga faa'iisto lagu dhaho hadii aad rabto inaan muddadii diinta aan waqti kugu daro waqtiga aan kugu daray waan kugu darayaa laakiin lacagta inta ku kordhi la oranayo iyo qofkan kale ee alaabta lagu leeyahay alaabtan hadda iibsanaysana waa inta hadda sanad kadib bixinaysan lacagta waa intaas lagu leeyahay waxay ku kala duwan yihiin waxa kala duwan qofkan marka koobaad ee wax laga iibinayo صلان قفكم كله هبلو لابتوبكن هذا يجيب سنة وشان بقول هذا سنة كده العقد سنة وصاب بقول سيدا عن قفكن كل شيء إنه قفكن هذا يرتاجن وح قيمة عيان سنة أو وح سنة لابتوب وكل شيء قيسته وحقوق بسن كرايا أو وحق صارن كرايا عيان سنة مركا وح كل دون مركا قفنا وح ترى له فائدة لبلا سنة قفنا مركا مال عجا جنب على دريايو بهدي سوى لك فائدة سنة halka laakiin anaan qofkii waxba siinin waxba soo kordhinin markaan arko isagoo baahan oo marka lacag u baahan oo lacagna haynin muddadiina gaadhay baahidiisa darti intaan ka faa'iisto aan ku dhaho maadaama lacagteedii iyo waqtiga aad ku bixin weydii hada dhibaato sidaystay haddana dhibaatada aad wax ugu darto oo dhahdo waqtigan kugu daraya dhibaato kale kugu sii daraya taas weeyaan shariicadu marka ay diidan tahay
balse in laga faa'iideysto qofka baadiisa iska dhaafay aad marka maxay tahay qofka saas oo kale marka aragtaan war qofka ka faa'iideysano qiimaha ku dalacane waan sadaqu khayrun lakum qofka saasa inaad wax ku sadaqaystaanba ayaa idin khayr badan in kuntum ta'lamuun saas marka quraanku weyn leeyahay okay hadaba waxaan isweydiinaa hadaba fahamka noocaas iyo in ribada uu quraanku ka hadlayo inaan sida u fahanaa why it matter maxay faa'iido u leedahay inaan sida u fahanaa waxay faa'iido u leedahay waxa weeyaan waa kow halka hadii aanu ribada uu quraanku ka hadlayo aynu sida u fahano kow meesha waxa ka baxaya waciidkii adkaa iyo ciqaabtii adkeed iyo marka sida uu quraanku u adkeeyay ayaa marka meesha ka baxaya fahmiyada kale ee soo socda ee ugu horeeyo fahamka marka fiqiga ku sugan ee marka ahadiista ku sugan halka waxa nooga bixi doona marka ribada dhowrka nooc ah riba ee soo socota inuu sheegi doona inay ka duwan yihiin marka darajo ahaan ay ka hoosayaan ribada marka fa'danu bi harbin min Allah wa rasuulihi inay tahay baa inoo cadaanaysa hadaba saas ay tahay waxa jira marka ribo marka noocyo kala ah jirta oo marka gaar ahaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahadiista in badan uu ku sheegay kutubta fiqiguna marka ay aad iyo aad u kala ablaablayaan oo aad iyo aad marka u kala saaraan sababta inaguna hadda u kala saarana waxa weeye waa inuu faano horta in ribadu marka ay level kala leedahay ay kala hooseyso oo marka macnaha oodan u fahmin dambi waa dambi imaka salaano kale nin qof dilay iyo nin gabadh suuqa maraysa fiiriyay labadooda dambi ku dhaceen laakiin dambigooda way kala duwan yahay midna waa meesha ugu sareysay midna waa meesha ugu hooseysay marka saas oo kale waa in u fahnaa ribada lafteedu in level kala leedahay marka ay kala darajo sareyso haddana waxaynu imananaa ribada marka nooceeda labaad ahna marka ribada ay kutubta fiqigu ay aad iyo aadka ay u kala dhigaan kutubta fiqiguna marka ribada si guud waxay u qaybiyaan marka laba qaybood ay u kala qaybiyaan labada qaybood oo kala ah marka ribal buyuu iyo ribal duyuun ribo marka bayca gasha iyo ribo diinta gasha hadaba si guud ribada marka labada qaybooda haddana labadoodana marka waxa si daran oo xagga dambiga iyo xagga darajadaba ka sii sareyso oo si halis badan ribada marka ribo duyuun yiraahdo ee diinta gasha hadaba ribo duyuun inta aynaan ka hadal marka hore aynu ka horeyna hadaba ribal buyuu ribada marka bayca gasha bal aynu ka horeyno hadaba ribal buyuu dabcan qof caama ah oo inaga kala ah oo maanta qadhiga kuilatana jooga ribal buyuu markuu fiqiga akhrisanayo inuu 100% u wada fahmo dabcan aad iyo aad bay ugu adkaanaysaa sababtoo ah ma aha wax maanta la isticmaalo gabi ahaan ba aynu maanta isticmaalno ma aha haddana bal ribal buyuu qaabka u dhacdo iyo kutubta fiqigu qaabka uga waranto aynu hadaba aynu eegno hadaba waa marka koobaad dabcan farqiga u dhaxeeya waqtiga qarnigii 7-9 iyo maanta farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan waqtiga hore ganacsiga dhacaya intiisa ugu badani wuxuu dhici jiray marka ganacsigan qaabkan loo yaqaano wax kala bedelka oo macnaha أنا ما أنت هلك جوجا بريس صراحة كان إنكسون بريس وقت كتير ترى بريس وقت كان مجرني يا باستا بس كده صراحة أنا ما أنت واحد كسر قاطع أنا قرني جيت تدبس تيد أن جوجا وحنا يستع باستا كرتون باستا ما يستع وحنا ربع حافظ ده ما أنت أنا أكري بريس سوق مركان تجو ما دام كرتون باستا أنا يستع كرتون كباستا أنت إيبيين ذهب كإيبي أدوات كان صار دي صوت الذهب وكقالسين يعني ذهب كينا واحد يا سلفر كي يا كون كي يا شلن كي يا درهم كينا واحد يراس سيمبولو ملك سليه لي معه وواحد قاليه وتوحيبه وين قاليه مبلوك اللي بسنيه صدرت xaafadaydi maanta waxaan u baahnay inaan koriyo bariis suuqan tagaya kartoonkayga baastada ma suuqa geenaya waan soo bedelaya oo qof kale oo xaafad kale oo baasta rabta yaan baastadeeda siinaya ana maxaan ka soo qaadanaya bariiskii baan ka soo qaadanaya fiirso ganacsiga noocaas waqtiga hore wax iska kuman oo caadi ayuu ahaa laakiin maanta suuqa kuma arkaysid qof bariis kartoon baasta la wareegayo ornay yaa bariis igu bedelaya waan karsanahay dabcan ma arkaysid taas marka keenaysa in marka koowaad horta fahamka guud inay kala duwanaadaan taas keenaysa وقت قارن هذا ربا البيع وقاب كل عشرة وحوها ما دام أنت أقوم بدن ترانزاكشن كذهبي سلفري درهم كل عام ما دام آدو يرى أو إسكاكوبنا ترانزاكشن هذا وحيوالك اللي بسنة بدن كود ما دام كل 20 قابك اللي يسكب بدلنا أو صراحة كله تمر واحد يقول بدلنا محوها قمندي سرين حياد وحلا كله بدلنا نظام كواحد كله بدل شذا العقد عنا هين ما أنت إنه ترانزاكشن والبعد على العقد كل على العقد واحد كله بدلش لكن نظام كاس وقت قهري ما دام وسنترين هديه وشراء درهم يا سيلفر يا جولد أما ده وحلو كل يسني أنا وحيوه وين قالقع ومكون عند 20 ما دام هذا بقى يسده هنشرتي تاسع مركا واحد عضي ومعقول نقطة إن هلك والربا أي ربا أي كدعي كرتو ربا هلك كدع عنا لو نوع هنشرتي إن نقطة ربا النسيئة هي ربا الفضل إن نقطة أي مركا دعي شرتي sidoo kale ribal fadl iyo ribal nasii'a hatta lacagaha laftada marka qaar way ka dhici jirtay
oo salaano kale oo rasuulku inkastoo de wixii af Soomaaliya ka dhiganaay de axaadiista wad garanaysaa salaano kale rasuulku muxuu diiday in marka wax la isku bedelayo salahan qamadi baa rabaa inaan qamadi ku bedesho sharciyada maxay rabtaa inay isla ekaadaan daab baa rabaa inaan daab ku bedesho inay isla ekaadaan silfal baan rabaa inaan silfal ku bedesho inay isla ekaadaan rasuulku markuu leeyahay waxyaabaha isku mid ka ah marka la isku bedelayo waa inay isla ekaadaan hadda waxa laga yaabaa inaad dhahdo maxaa faa'iido ku jirta ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan rasuulku wuxuu diidanaa in dadka la khiyaamo oo salahan ima ku fiirso marka rasuulku leeyahay marka silfar ku bedelo waa isku mid ahaadaan dirham lagu bedelo waa isku mid ahaadaan dahab lagu bedelo waa isku mid ahaadaan waxa weeyaan waqtigeena imaka salaam bixina salaam maanta $1 iyo $10 iyo $50 maanta dollar waa dollar oo $100 ee la soo saaray madbacada Mareykanka 2010 ka soo baxay iyo $100 ee sanadkii hore soo baxay maadaama uu dhaxeeyay gaab 10 sano maadaama uu dhaxeeyay hadana waa isku qiimo dollar waa dollar waxa ku qoran iyo sirna barkiisa duu saxiya maleegiya dollar waa dollar laakiin waqtiga hore maadaama uu dabcan central bank lacagtii iyo wixii maamulaya maadaama uusan jirin waxa dhici jirtay dahabka muxuu boqortooyadii farisiinta ama reer Rome ay 10 sano ka hor soo saareen iyo dahabka sanadkii hore soo baxay suuqa marka la joogo isku mid ma aha sababtoo ah diiwaangelin ka tahay dahabka 10 sano ka hor soo baxay wuu xoqmay waa rafaad uu jafjafan yahay marka qaar waxa dhici jirtay salaano kale qof baa wuxuu rabaa inuu xoolo badan iibsado waxa lagu yiri xoolahan waxay u dhigmaan nus shilin baa u dhigmaan nus dirham baa u dhigmaan bariiri nus dirham marka la dhaho sarif dadkii ma helayaan muxuu ku khasbanaa qofku dirhamkii birtaan soo qaado intuu kala jabiyo oo dirhamkii laba uu ka kala dhigay inuu jeex qofkii siiyo u fiirsa taban dhibaatada inta la eg iyo dhaqaale waqtiga jiri maanta waana ku dhaha $100 waxaan oo $100 kontonka sarif maayo $100 intaan kala jeexo oo jeex ku siiyana jeex qaato waa dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay waqtiga hore wax iska caadi ah laakiin maanta wax jira maaha marka taas marka waxa dhici jirtay salaano kale dirham ama dirham iska dahab soo qaado dahab 10 sano ka hor ma dirham silfar 10 sano ka hor ay Romans soo saareen iyo silfar sanadkii hore soo baxay suuqa marka la joogo maadaama silfarkan uu cusub yahay wuxuu ka qiimo badan yahay maxay kii dhowr sano ka hor soo baxay taas marka waxa dhici jirtay dadka masaakiinta ah ee silfarkii hore haysta in la khaayimo rasuulku muxuu diidanaa dadka masaakiinta ee laga faa'iideysanayo ayuu diidanaa rasuulku marka muxuu soo jeediyay waa in waxa isku mid yihiin dirhamka lagu bedelayo waa isku mid ah isku qiimo ahaadaan silfarka lagu bedelayo waa isku qiimo ahaadaan dabcan marka waxa laga yaabaa inaad dhahdo okay aragtida noocaas khatarta rasuulku ku keenay waa rasuulka Ilaahay markasta rasuulku wuxuu dananay dadka masaakiinta ah in dadka tijaarta ay dhacaan buu ka ilaalinay marka taas marka keenaysa marka imika xadiistu ay leeyihiin wixii isku mid ah waa in isku mid laga dhigaa ujeedada ka dambaysa marka saas ay ahayd hadaba ribal bay'u marka waxay dhici jirtay waxyaabaha isku midka ah marka la iibinayo in isku mid laga dhigo hadii xataa qofku uu u baahdo tusaalahaan oo kale imika timirta exception ka ku jirto xagga mankaarka doonaaye xataa marka qaar hadii loo baahdo salaanka laba shay isku mid ah laakiin kala duwan markay dhacdo rasuulku muxuu dhin jiray muxuu ka kula talin jiray hadaba labada shay imika tusaalahan dirhamkii inoo soo qaado silfar 5 sano ka hor Romans ka soo baxay iyo silfar maanta cusub yaan haystaa anigu qof baa rabaa inaan wax ka gado qofku wuxuu yiri anu alaabteeda silfar cusub ma ku iibinaya silfarkii cusba hadii uu konton u dhigmayo kuma oranayo silfarkan duuga ah 70 man kaaga dhigay 70 ka ku qaado lama ogolade waa ribada rasuulku diiday laakiin maxaa la ogol yahay waxa la ogol yahay alaabteedii intaan aniguna aan cid kale ka iibiyo oo silfar cusub cid kale ka iibiyo silfarkii cusba sanadkii hore soo baxay inaan qofkii u keeno oo sidaa ayuu rasuulku banay taas marka maxay imanaysaa in qof kasta oo lacagtii haystay gaar ahaan dadka masaakiinta ah maxay in la baqsino wuxoodii aan waxba yahay laga soo qaadin ay marka taas keenaysa sidaa darteed halka marka taban waxay nooga muuqanaysaa sababta ay marka ay u kala duwanaayeen dhaqaalihii waqtiga qarniyadii dhexe iyo marka dhaqaalihiina casrigan maanta jooga sababta u kala duwan bad halka aad ka dareemi kartaa oo maanta waxaan ognahay lacag walba iyo hanti walba taban cid kan darasho oo gacanta ku hayso oo central bankiyada ay maanta leeyihiin sidoo kale waqtiyada hore dadka dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah tusaalahaan qofka hadduu rabo inuu safro oo uu meel kale u tago hantidiisa oo dhan inta uu qaato magaalo kale lama tii karin oo in dhaxal ka soo dhaco waxyaabo suuqa ka cabsan jiray laakiin caqabadaas maanta inaga ma jirto haddana aanu imaado marka qodobka labaad oo ah ribal duyuun ribada marka deynta gasha arintana dabcan iyaduna marka deyn la dhaho waqtiga hore iyo maanta aad u kala duwan tahay sababtoo ah si guud waqtiga hore kaliya ma aha xataa fiqigeena islaamiga ahi aragtida iyo qeexitaanka uu deyn saaro iyo maanta caalamku
aragtida iyo qeexitaanka uu diinta ka haysta gebi ahaanba way kala duwan yihiin macnaha laba shay magacan bay ka siman yihiin mooyaane hadday noqoto dabeecadaha hadday noqoto ujeedada hadday noqoto meesha loo isticmaalayo gebi ahaanba way kala duwan yihiin sababtoo ah fiqigeena islaamiga ahi diinta kow horta wuxuu u yaqaanaa arrin macruufa oo qofka asxaan iyo wanaag loogu sameynayo shareecadeenana iyo fiqiga marka la joogo diinta faa'iido lagama raadiyo ag fahamka noocaas iyo qeexitaanka noocaas iyo gebi ahaanba muxuu ka doonaanayaa looyinkii maanta caalamka ka jira oo in markaa maanta looyinka ama diinta in qardi la dhaho dabcan erebixin ahaan magacan bay ka sameyn yihiin mooyaane dee waa laba shay oo gebi ahaanba kala duwan saa darteed halka waxaa kaaga soo baxaysa saa darteed ribada halkaa geli kartaa in maxay ay kala duwanaanayso sababta labadan shay qeexitaanka la saarayo iyo ujeedada iyo maqsadka iyo meesha loo isticmaalayo haddii kala duwanaadaan dabcan dee waxa ka soo baxayana wuu kala duwanaanaya marka maxaan idhi horta inagu fiqigeena islaamiga ahi diinta aragtida uu ka haysto iyo qeexitaanka uu ka haystaa waa mid gebi ahaanba kan maanta caalamka ka jira islaamka iyo fiqiguna diinta uma yaqaano markaa meel laga faa'iido arrintaas haddaba maadaama dabcan ay saameyn ay keensanayso saameyntaas inkasta ay noqonayaan saameynta bangiyadana muuqaalka xaggiisa dambeenu ka hadli doonaay aynu usoo noqono markaa ribal fadl iyo ribal nasii'a aan usoo noqono kuwaas maadaama ay beeca galaan maadaama ay beeca ay gasho beecuna maxaan soo sheegnay وأحل الله البيع وحرم الربا بيع وحكي لي يبسجونه ما دام هو حلال هاي وقت قاعد بقى أي ربا النصيحة من ربا الفضل ده دعسة وحويا كلي وحي كشاؤن وعلى بها لكلي يبسنه يو صلحان كمنطقة من تلقوا بدلنا يو كلي لقوا بدلنا يو وأنا دي إسلاء كلام الربا دي إسلاء كلام ويا شبيدي وجلسة سيدا كلامك تما ضحك صرف كلا عجحنا أما سيدا شيء إن الذهب كي قديم كي عصبة لقوا بدلي maadaama dee dadka conceptkoodu iyo dadka caqligooda uu ku fikirayo dahab qadiim oo 10 sano la isticmaalay iyo dahab fresh hadda soo baxay maxaa isu leekaysiinaya maadaama dee dadka conceptkooda caqligooda saas ku soo dhacaysa laakiin maadaama shariicadu u diiday dee ujeedadana waa sheegnay dadka masaakiinta la rabaa in la dhowro maadaama aan sidaa nidhi haddana inkasta oo la rabo in waxyaabaha marka la isku bedelayo inkasta oo la rabo inay isla ekaadaan oo markasta ribal nasii'a iyo ribal fadl labadaba in laga ilaaliyo maadaama oo la doonayo haddana fiqiga ribal fadl iyo ribal nasii'a dabcan afarta madhab aad iyo aad bay ugu kala duwan yihiin waana meelaha aragtiyaha ugu badan marka ay ka joogaan oo culimada qolaba dhinac ku dhufanayso laakiin inkastoo casrigeenan ribal fadl iyo ribal nasii'a gebi ahaanba dee casrigeenan meel ay naga soo gelaysaa ma jirto sababtoo ah ribal fadl iyo ribal nasii'a haddii alaabta lacag lagu kala qaadanayo ma gelayso laakiin haddii alaabaha iyaga laysku bedelayo markaasoo keliya ayay alaabta ka dhex dhacdaa laakiin casrigeenan iyo waqtigeenan dee maanta ma arkaysid qof bariis daqiiqa ku bedelanaya qofka bariis rabaa lacag buu ku iibsan ka baasta rabaa lacag buu ku iibsanaya marka marnaba dee ribal fadl inaga inama soo gelayso dee waxaa la odhan karaa waynu ka maarmi karnaa haddiise haddaba lacagaha ay timaado waa ka halka ay xogaa ay wax isqaban waayaan haddii haddaba ay lacagaha timaado xogaa waxbaa yaro dhacaya lacagaha isku midka ah maadaama fiqigu iyo shareecadu ay naga rabto inay isku mid ahaadaan waxaa jira haddaba exceptionist laga reebayo oo imaam maalik waxyaabaha uu ka reebaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan adoo maanta dahab haysta yaa waxaad u timid ninkii mintiga ahaa ee dahabka dee silfarka ama shilinka u bedelayay waxaad ku tiri dahabkan waa 100 gram waxaad iga dhigtaa 100 gram ee dahabka ah diinaar iga dhigo silfar igu bedel qofkii aad u keentay markuu kuu bedelayo dahabkaagii 100 gram ahaa markuu diinaar kugu bedelo wuxuu ku siinayaa dahab u dhigma 98 gram adna maxay u dhiibatay 100 shareecadu maxay ahayd sida saxda waxay ahayd dee 100 baa u dhiibatay maadaama dahab kale uu ku siinayo deenu isla intii ku sii ahayd laakiin maadaama uu shaqeeyo adigu exception ku jirtaayo imaam Malik wuu ogolanaya wuxuu leeyahay markaas oo kale qofka kaga shaqeynaya wixii aad siistay exactly inuusan ku siinin oo dee waxaa wax ka noqsiyo ka yarna qosiyo waa la ogol yahay sidoo kale waxyaabaha exceptionska waxa kamid ah timirta oo kale oo salaan qof baa wuxuu rabaa timir cusub oo fresh oo geedka ku taala inuu ku bedesho mid kale oo dee qalashay inuu ku bedesho iyaduna markaas oo kale waxa dareemi kartaa in xaqi qiimuhu uusan isku mid noqonaynin iyada lafteeda marka exceptionist baa la raaciyaa oo rasuulka laftiisa sallallahu alayhi wasallam uu ogolaaday iyadana waxa kamid ah qofka timirta beeranaya ee geedaha timirta u yeelaan inuu qof kale uu ku oran karayo ama isagu uu oran karayo waxaan kaasi iibinayaa timirta 6 bilood kadib ii soo go'i doonta laakiin bisharti anigana hadda waxa u baahanahay timir qallalan oo caadi u baahanahay timirtidaas marka ii soo go'daan ku siin doonaa marka adigu xeerarkiis ma qabanayaan laakiin markaas kale haddana adigu waa exception iyadana waa la ogolaadaa
سادرتيد ربا البيوع إن كستو دي عصر جينا نجبي هم بينجو أينا إما إن سامينين لكن أينا قلنا ما هذا بقى ربا الديون تاس ما دام عصر جينا يدو أي سامين لهذا هاي ربا الديون هذانا يدنا مركع علماء الفقه سجود وحنا وكلا قاضان صدح قيبات بأكلا قاضان وواحد عن ربا مركع الدين تكشع وصدح نوع وأنا ليفل وين كلا السريان تكوبادي واتي أنصار شاقني وهرب الجاهلية واتي القرآن كو شاقي دي قفك لدعي انت قف العقل ما هي مركب بحين كروي لغورني ما دام العقل بحين كروي دي وقتي وان كو قدريا بلاش معها وانا العقل وحكو كردسا سادرت وقتها كدرسو او قفكي مسكينك اها بهيدا لغا فايديسانيا تاسن وانا توغخن وانا فادن بحرب من الله ورسوله ويان واتكوباد طلبات waxa weeyaan waxa la yiraahdaa ribada dacwa ta'ajjal ribada لليه قفك صلنا كبحنا صلنا كله أوكي أحمد كيوران قصة نقضه أنا خضرة أي أحمد وحن كله يتصلان $100 وحن ربع سنة كدنبه ما دام إمك جنوري لو يكون أفلاتين كله جتلو وحن كربع $100 إنه ويكينو جنوري 2025 كواسنة مركز صلنا بشي دنبه لقى فوري ينكوري أحمدو نيو أنتي أن سنة كدب أن كقاعدان لها $100 دينتي هذا إسي بشرط لكن بقولك مرة به ستيتم بعد سنة صح أو دينتي أنا كلها أنا وحكي عفينية لكن بشرط وأنا وقت جيس ود شيء حتى وأنا أساسا دينتي سي عندي $200 أنك قد دايو تحسنا وأنا على بعض يدونا علماء بدن كود واحد هان لما أقوله إن كستو علماء قارئ دهان ولا أقول لي هاي waxaa kamid ah culimada ornaysa wala ogal yahay ibn taymiya wixii soo soo qaadanayaan marka exceptionist-kii rasuulka reer banu nadir usoo soo qaadanay hadana adu weyn haw waa talabaad nooca saddexaad ee diinta ahi waxa weeyaan iyadana waxa la yiraahdaa ibtidaa'u diin bidin diin lagu gudayo iyadana waxay dhac culimadu dhahaan culimada fiqigu badankooda ay dhahaan lama ogola inkastoo iyadana aynu exceptionska aynu arki doono iyadana tusaalahan ka bixino iyadana waxa weeyaan ibtidaa'u diin bidin waa diin lagu gudayo oo salaano kale أحمد وحن كورنا يا أحمد وصلان أحمد وقف فرسمي يقانو وجريه الرنشية وحن كورنا يا أحمد اسمه يسوي ورنا يا خبروا جريان كورنشينيا لعقت إسي $100 بعد سنة حتى $100 كورنشينيا بيش الدنبه أيام ما كشغله وقبنيا مركا إسقي وحوي ما قبنين أنا لعقت ونسيه لعقت دين بيسوي كتاي إسقي ندى وحوي ما قبن مركا سكلا فقه ما قال أو حلو فقه وحول ربع وإحنا تكون شيء سماه مي العقد ما سينكرتين وإنه كورجا كورنشي مركو لما العقد سيسا ساسو فقه وقبال لكن يدنا ونوع استعاد إنكستو exceptionist يدنا يكون شرطو لكن ما دام وبش الدم بورجين دون إنه العقد هذا يجي سيقاطه ما بنانو ربا سوق السائي علماء ليهين لكن تنا وحى لقربا بيع السلم كأي لقربا والرسول كبو وقلاضي بيع السلم كوحويان سكر هذي لو دقو يدنا إحنا نقول كرتها مي يدوا قار بيع السلم كوحويان سووا بيع السلم كوا exceptional أو فقه قواعد سواها كمية وحنات هينين ما يبين كرتت oo di alaab aan imika aan haynin qofku ma oran karo waan ka iibinaya sharciyadu ma ogola laakiin beecu salamka waa la ogol yahay okay maxay ku kala duwanaanayaan marka in beecu salamkiina la ogolaado sidoo kale la diido oo la dhaho waxaan haynin ma iibin kartid in la dhaho idan waxay ku kala duwanaanayaan culimadu waxay leeyihiin marka haddii wax iska general oo guud u yahay markaas oo kale waa beecu salam oo iyadu dhimale oo xataa dee tii rinjigu taas soo iskili karaa qofkana dee may tarinjiga maaha مثلاً كبحنا يدنا وحويا صلاحان قف واحد كنت تري صلاحان كله أوكي صلاح عين صغيرة صلاح حلال أونلاين ماركت واحد تري آيفون بنايا وساحي يسوي فيسبوك صادقت آيفون كان أكتوال ما يصير لكن آيفون كالسوق وحكي على صلاحان $100 وساحي يسوي واحد تري $100 بنسينيا بيع نوع عاصم مركل لجوه قالوا حويا هدي قفك مركل لجاس هذا البضو عاد آيفون وتري صاد قفك وكله إيه كان العكس كوب صادر أنت أصلا مكان سوق تكتو وسوي يمكن قفك وجين كرتو تاوى لو جاي لكن هذا وحن يبينا يا آيفون سيريال نمبركيس وسيدا يا أو كاس واحد أذاك أشكتو specifications فربان عاد طبعا دكتو مركز كله بيع سلم لجوه وقلا وحلو قرنا يا يبين دي واحد أنا ما ليس عندك واحد أنا هنا يبين مركز inaad wadiira kala fahanteen ma rajaynaya waxay sababta u kala duwan yihiin saadarta hadaba labadii qaybood ee ribada hadaynu ka soo hadalay aynu u nimaadno hadaba qodobka ugu dambeeya ee xasaasiga ah oo ah qodobka diinta dabcan maadaama oo aragtida marka fiqiga iyo islaamkuba uu ka haysto iyo casrigeena qaabka diinta maanta loo isticmaalo maadaama ay gabi ahaan ay kala duwan yihiin horta hadaynu ka horeyno fahamka fiqiga islaamka iyo fiqiguba waxay u yaqaanaan waa isku mid waxay u yaqaanaan diinta horta koob meel laga ganacsado maaha diintu
waa marka labaad deyntu waa saxaan qofka lacagta la deyminayo loo sameeyo waa marka saddexaad mararka qaar baa ma si guudba deyntu xataa waxay ka fadli badan tahay sadaqada uu qofku u bixiyo way ka fadli badan tahay marka waxa soo qaacida iyo waxa soo wanaaga maadaama islaamku uu deynta u sheegay ujeedada deentuna ay tahay qofkan baahan lacag wax la deyminayo in lagu caawiyo maadaama ay tahay balse aysan ujeedadu ahayn in qofkan laga faa'iideysto maadaama aysan ahayn halka hadaba bilcagsiga waxa ka soo baxaya casrigan maanta deynta waxa loo isticmaalaa shay laga faa'iido qofkii wax la amaahinayna asxaan in loo sameeyo lama rabe in laga ganacsado ayaa la rabaa taas markaa ka dhigan deynta islaamku iyo fiqigu qaabku u yaqaano iyo casrigan aynu maanta joognaa qaabka u yaqaano gabi ahaanba u kala duwan yihiin magaca oo kaliya unbay ka siman yihiin haddaba weliba sidoo kale xagga fiqiga aynu ku noqonay waxaa jirta qaacido fiqiya oo odhanaysa deyn walba oo markaa manfaco soo jeeda waa ribo maxaan idhi deyn walba oo wax laga faa'iidayo manfaco qofkii bixiyo u soo jeeda waa ribo qaacida fiqi markaa gabi ahaanba waxay ka hor imanaysaa dabcan nidaamkan casrigan caalamkan maanta siduu u dhan yahay waad ogtiin dabcan adduunku maanta 80-90 waxa ku dhisan yahay ku kala socdaa waa wada deyn saa darteed arrintaas maysan adkaaninin dabcan way adkaanaysaa waana ujeedada aynu halkan u fadhino Dr. Fadlna uu artikelkan u qorayo haddaba labada qodob ee bari iyo galbeed oo kala jeeda sidee baa la soo waafajinayaa mawduucaas hadda ka hadlaynaa haddaba maadaama ideolojiga islaamka iyo fiqiguba ay qabaan maadaama ay islaamka iyo fiqiguba ay qabaan markaa deyn walba oo manfaco soo jeeda waa riba maadaama ay qabaan haddaba bal halkaas qaacida guud ee fiqiga ah ayaynu markaa iyanu kala furfurina okay haddaba ribadu iyadoo riba ah oo xun oo dembiga aadka u weyna waxaan soo sheegnay markii koobaad inay maxay in level kala leedahay oo kala sarreeyso ribada ugu xun quraanku sheegay fa'danu bixarbi min Allah wa rasuulihi inay tahay maxay taa quraanka lagu sheegay ribada nooca labaadina waa ribada fiqiga ku sugan taa fiqiga qofka ku dhaca dabcan culimadu waxay isku waafaqsan yihiin fa'danu bixarbi min Allah wa rasuulihi inay soo gelin laakiin iyada lafteedu maxay ay dambi tahay taana way soo faanay okay labada qabaadin soo faanay qodobka saddexaad ee mudan inuu faano waxa weeyaan ribadaas gaar ahaan ma aha ribada quraanku sheegay ma taasi marnaba exceptional ma noqoto oo taasi xaqaas ku afjaran tahay okay ribada labaad ee secondary-ga ah ee marka fiqigu uu ka waramaa waxa jira marka iyada exceptions waxyaabo laga reebo ayaa jira oo marka rasuulka iyo culimadeena fiqiguba ay ka soo reebeen exceptionskaasi marka waa 5 6 7 ilaa 8 wax weeyaan okay waxaan hadana tirnina ribada levelka labaad ee marka fiqigu uu sheegayo ribada xuna iyo ribada iyadoo waa xaraane maxaa ka reeban maxaa mararka qaar exceptions oo laga reebaya waxa laga reebaya waxa laga reebayna waxaan ka wadnaa qaacida ahaan iyo fiqh ahaan marka la eego waa ribo laakiin haddana ama rasuulka ama culimadii fiqiga ayaa ka soo reebay way ka dhigan tahay okay kuwa maxaa kamid ah waxa kamid ah bay'ul caraaya waxa weeyaan wuxuu ogolaanayaa contractkaasi wuxuu ogolaanayaa in marka timirta cusub ee geedka ku taala in lagu bedelan karayo mid qalasho in lagu bedelan karayo waliba la gaarsiin karayo ilaa 5 awsuq la gaarsiin karayo 5 awsuqna dabcan wax yar kuma aha waa cunto ilaa sanad dadka ku filan oo la isticmaali karayo okay haddaba maadaama bay'ul caraaya la ogolaaday bay'ul caraaya in la ogolaado oo la dhaho riba maaha maxay ka dhigan tahay bay'ul caraaya haddii la eego la waafajiyo xeerarkii iyo qawaacidii ribana si ay riba fadha haddii la eego wuu noqonayaa haddana in kasta oo bay'ul caraaya uu yahay uu soo iskaliyay xeerarkii ribana si ay riba fadha haddana saasay tahay exceptions waa la ogolaaday iyadu kuma jirto baa la yiri waa marka labaad exceptionska waxa ku jira qofka marka wax la amaahiyo in marka qofkii wax la amaahiyo kii lacagta amaahiyo ma waa kii wax la amaahiyo intii la amaahiyo wax ka badan inuu keeni karo oo tusaalahan hadii saaxiibkii Axmed aan $100 amaahiyay sanadka markuu dhamaado ama 6 bilood ay dhamaato qofka Axmed waxa u furan inuu $100 ii keeni karayo iyaduna waa exceptions laakiin bisharti maxaa ku xiran markii aan amaahinay oo hadii aan shardi ka dhigi lahaa on ku Axmed oo ku oran lahaa Axmed waxaan ku amaahinay $100 6 bilood kadib $100 ay keen xaraam ma noqon lahayn laakiin anoo sidaa ku oranin sidaa kula heshiinin hadduu isagu uu iskarto oo uu wanaajiyo u dhaho wallahi khadar weydalayo $100 bay amaahiye imaka markaan siinay 100 ma siinay waan uga badanaa hadii la dhaho isaga waa loo ogol yahay xadiis baana ku soo aroray taa okay rasuulka laftiisa sallallahu uu ogolaaday iyaduna markaa waa exceptionka labaad okay exceptionskan way maxaan u sheegnaa xagga dambe ka arki doonaa okay exceptionka saddexaad bay'u salamka waa la ogolaaday okay bay'u salamka la ogolaaday maxay ka dhigan tahay maxaa la diidanaa fiqigu uu diiday ما ليس عندك وحانت هيبين بال وحانت هينين هيبين بال يدي لكن هذانا بيع سلم في الله قال هذا
macnaha xaqana waa ka ribo kana waa la ogolaaday la jiifiyana banaan la suujiyana banaan oo de saxdii weeyaan culimada iyo fiqigu inoo ogolaaday oo salaam kale imika beecu salaamka maxaa loo ogolaaday kale de sababta ka dambeysa waxa weeyaan salaam qofka beerleyda ah ee beerta beeranaya marka koowaad beerta uu bilaabayo marka roobku doo beerta uu bilaamayo intan uu roobku uu bilaabanin wuxuu rabaa de beertiisii inuu maalgelin u sameeyo oo de seed iyo waxyaabo iyo ka shaqaysiin iyo shaqaale wax gelin rabaa qofkan beerleyda in lacagta hadda ma hayo marka muxuu sameyn karaa beecu salamo nin buu tagay wuxuu qornay nin hebelow beerteedii baan ka shaqeynayaa roobkii waa da'aya 4 bilood kadib beerteedu way soo go'i doontaa 4 bilood kadib midhaha soo go'i doona iminka iga sii iibso ayuu oranayaa yaa loo dananaya qofkii beerleyda hadii la oranaha beecu salamka lama ogolo oo maaleysi cindak waraa midhaha oo ma soo bixin iibinin te sidee buu qofku uu beertiisa uga shaqeyn karaa dhaqaale ma soconay marka taas oo kala keentay maxay baahi baa keentay in sida la sameeyo oo beecu salaamka beerleyda saasoo kale in loogu ogolaado marka iyaduna waa exceptionka saddexaad okay ka afraad inaad qof shaqaalaysiiso oo ijaar majhuul aad ku shaqaalaysiiso lama ogola qofka salaam waa shaqaysa waxa tirnay ii shaqay oo halka iga shaqay laakiin bishu marka dhamaato waxaad heli doonto hadda kuma sheegay wixii soo bixin baan wax ka siin doonaa inaad iska shaqaysaa ku tiri taa lama ogola oo waxa weeyaan ijaara majhuul weeyaan oo sharciyadu ma ogola laakiin haddana maxaa la ogolaaday mudaarabadii baa la ogolaaday inaad haddana waxa la ogolaaday taa bilcagsigeeda in qofkii aad ku dhahdo niyow salaano kale niyow dhulkan aan leeyahay walaalow dhulkan inoo beer markaad inoo beerto ood ka shaqayso wixii ka soo baxa yaan percentage ka siinayaa baa tiri kii horna walidina kana waa la ogolaaday marka iyaduna waa exceptions iyaduna gaar ama si kaleba beermaha ganacsi dadka dhan de wada ganacsata maaha salaano kale anoo iska mashquulsan oo hawlo kale iska haya ayaa waxaan arkay qof aan saaxiib nahayo xagga ganacsiga wixii ku fiican waxaan ku riniyo Axmedow kaale walaal waxaan ku siinayaa $1 $1 inoogu shaqay wixii ka soo baxa yaa 30% aan ku siinayaa 30% qofkan waa shaqaalaysto ma waqtigiisi wax kastaan kaluminaya waxaan ku leeyahay ganacsiga marka noogu shaqayso $1 waxa ka soo bixi doona yaa 30% ka siinaya waa jari majhuul haddana waa loo kulyahay iyaduna marka waa exceptions okay waxaan dhan maxaa keenay iyo ujeedadu maxay xagga diban ka arki doona okay exceptions ka shanaad ee marka fuqahadeenu ay sameeyeen waxa kamid ah Imam Malik waxa uu ogolaaday waa tii sheegnay tidowgan dahabka ka shaqeeya dahabka mintigareeya hadii dahabkaagi dirham lagu bedelayo oo 100 gram oo dahab aad u keento oo hadhowna 100 gram oo dahab oo laakiin dirham lagu siinayo inta hadhow 100 aan lagu siinina saashin isteed lagu siiyo labada gramna dahabkina ay noqdaan qofkii ka shaqeey la siiyo inkastoo ribo tahay haddana Imam Malik wuu ogolaaday sidoo kale Imam Malik wuxuu ogolaaday cunooyinka la isku bedelayo in lahayn ribal biic waa dhex kasha cunooyin isku mid ah oo la isku bedelayo laakiin la kala badinayo kuwana waxa ogolaaday Imam Malik waxa uu yiri sidan waxa ku jirta maslaxada dadka waxaan rajaynayaa ribada waxaan rajaynayaa ribada halka ku jirtaana inay mid yar khafiifa noqon doonto sidoo kale Xanafiyaduna marka Imam Abu Hanifa wuxuu ogolaaday isaguna wuxuu ogolaaday istisnaaca iyo beecaasi inuu dhici karayo inkastoo beeca noocaasi uu ka hor imanayo de maalisi cindك waxaanad haynin iibin inkastoo ka hor imanayo haddana Xanafidu way ogolaadeen istisnaaca noocaasa in la sameeyo وفرس runtii waxa soo tusaale 8 9 10 ka tusaale ay wada sheegno dhamaantood waxa ku wada jirta riba ku wada jirta haddana saas ay tahay rasuulka iyo marka culimadeena hore ee fuqahada ahaaba dhamaantood way wada ogolaadeen sababta uu ogolaanayna markasta waxa leeyihiin tan waxana ku jira baahiba ku jirta waa loo baahan yahay aduude waxay keenayaan excuse be keenayaan oo sababta sheegayaan okay bal waxaad ka soo qaadaa hadaba lacala waxaad ka soo qaadaa inkastoo xagga bangiga soo dhawaanayay hadii lacala maanta Imam Malik Abu Hanifa ay noolaan lahaayeen oo ay arki lahaayeen casrigan maanta dunidu siday tahay iyo adduunkan maanta 80% deynta iyo ribada ku wada socda hadii arki lahaayeen miyaysan kula ahayn in waxyaabo fara badan oo ribo ku jirto haddana sida tusaalaha shafrabana 10ka ay soo taxanayo kale inay ogolaan lahaayeen miyaysan kula ahayn dabcan way tahay wayna maanta wax badan oo maanta jirana aynu sheegi doonana maanta way ogolaan lahaayeen arrimahaas marka waxay tusinayaan Dr. Maxamed Fadil Bahalaye fiqigi iyo marka fahamkii iyo inay fuqaha ahaayeen Imam Malik iyo marka Abu Hanifa culimadina waaweyn inay fiqih ay ahaayeen ay dabcan inoo cadeynaysaa sidoo kale nooca saddexaad ee marka deynta gelisay ribada ibtidaa'u deyn bidayn Imam Malik laftiisu uu ogolaaday saasoo kale dabcan maanta waxaad ogtihiin adduunku 100% maanta adduunku wuxuu ku dhisan yahay ibtidaa'u deyn bidayn deyn lagu gudayo qof
wax uu qabtay uun jirin oo contract la geliyo qofku wuxuu qabanayo qofka loo qabanayo de adduunka dhan maanta ibtidaa deen bideen ku dhisan haddana مجمع الفتاوى طبعا ابتداء الدين بالدين ما انت ويقول لي صوت عادي باهبه لو قبايو adduunka maanta ku wada dhisan hadaba inta aan soo sheegnay si guud marka la isku wada qabto halka marka hadaba waxay nooga soo baxaysaa oo marka ka jawaabeynaa sidee ba hadaba la isku waafajinayaa ribada aynu soo sheegnay soo kala ablaableynay waxyaabaha exceptionska ah ee marka laga soo reebayo aan soo sheegnay caalamku maanta sidoo ku dhisan yahay sida maanta adduunku bankiska ku shaqeeyaan dhaqaalaha caalamku maanta sidoo u shaqeeyo waxaas oo dhan marka la isku wada qabto waxaan isweydiinaa hadaba halka maxay nooga soo baxaya sidee qofka muslimka ah maanta oo de inta aan soo sheegnay iyo caalamka aynu maanta xaqiiqadiisa iyo realitygiisa aynu aragno sidee buu hadaba qofka muslimkii ay tahay inuu uga falceliyo aynu ka jawaabeynaa hadaba arinta inta aynan ka jawaabin dabcan waxa jirta laba su'aalood oo qoto dheer oo labada su'aalood in laga jawaabaa ay markaa jawaabtu waxay noqoto ay culimadeena fiqigu waxay ka jawaabaan ay wax ku saleysmayaan okay labada su'aalood ee dabcan culimadeena fiqiguna marka ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan su'aasha koobaad waana su'aal qoto dheer su'aashaas jawaabta laga bixiyo ayaa markaa noqonaysa waxa lagu go'aan qaadanayo su'aasha koobaad waxa weeyaan arrin ruqso ah ma laga qiyaas qaadan karaa oo ruqsadii inta laga qiyaas qaato ma lagu dhaqmi karayaa su'aasha marka la isweydiiyo culimada majoritigoodu badankoodu jumhurtoodu waxay leeyihiin maya laakiin qaar baa oranaya ha su'aasha labaad waxa weeyaan baahida iyo xaajada uun miyaa la eegayaa marka xeerkaas fiqiga ah la iskaga tegayo mise baahida dhabta ah ee daruurada ah markay timaado unbaa la fiirinayaa jawaabtuna markaa culimmadu waxay noqonaysaa uun haa iyo maya oo dee haddii haa dhahaana waxbaa ka dhalanaya haddii maya dhahaana wax kalaa ka dhalanaya labada qona dabcan si yaro kooban haddaan af soomaali aan ku jilciyo qodobka koowaad waxa weeyaan arrin ruqso ah oo markaa rasuulku uu ruqseeyo uu baneeyey ama culimmadeenii hore ee fiqigu ay baneeyeen arrinta inta laga qiyaas qaato ruqsada ma la iskaga dhaqmi karaa uun haa mise maya culimada fiqiga u taala arinta labaad waxa weeyaan arrin riba marka la qaadanayo oo ribadan la iska yar banaysanayo leeyahay ribadan waa lagu dhaqmi karaa marka leeyahay ma waxaa la eegayaa baahida iyo xaajada loo qabo uun miyaa la eegayaa mise baahida dhabta ah ee daruurada ah ayaa la eegayaa taasna culimadu haa iyo maya way leeyihiin marka haddii haa dhahaana waxbaa ka dhalanaya haddii maya dhahaana waxbaa ka dhalanaya haddaba intaas haddaynu isla fahnay waxaynu ka joogaynaa markaa su-aasha ugu dambeysa ee ah caalamkan maanta ku dhisan nidaamkan bankiska ah waad ogtihiin maanta wax walba bankigu dhex maraa caalamkii maanta boqolkiiba 98 wuxuu ku dhisan yahay qaab ribowiya sidoo kale noloshii dadka oo dhanina waxay ku dhisan tahay qaab deyna qofku marka nolol ma samaysan karayo horumar ma gaari karayo hadduusan deyn qaadanin saa darteed waxaan isweydiinaa haddaba bal arrintani maxay ka dhigan tahay maxayse sidoo kale muxuusan noqon karayaa fahamka saxda ah ee qof fiqigiina garanaya waaqica caalamkana garanaya fahamku arrinta uu ka qaadanaya maxay noqonaysaa ayaynu ka jawaabaynaa haddaba dabcan waxaa jiray isfahamwaa u dhexeeya labada dhinac isfahamwaa u dhexeeya dadkii shacabka ahaa ee inaga ahaa iyo markaa bankiskii marka waxaad moodaa marka inay iska hor imanayaan inaga lafteena inagii shacabka ahaa aragtida aynu qabno iyo waxaynu ku dhaqmayno iyo sidoo kale bankiska aragtida ay qabaan iyo waxay ku dhaqmayaan inay iska hor imanayaan ayaad moodaa sababtoo ah xaggeena aynu ka horeyno xagga inaga dadka aynu ka horeyno sababtoo ah haddii inagu aynu maanta aynu dhahno maya anigu waxaan ahay muslim waxaan ku dhaqmayaa muslimo wadan haybe anigu waxaan ahay qof muslimo oo anigu waxaan rabaa tusaale ahaan kale lacag baan iska haystaaba waxaan idhi anigu lacag baan haystaa bangi iyo diin wuxuu uguma baahni waxaan ahay nin xoogsada oo shaqaysta baan ahay suuqigaasan ka xamaasha waxa aan soo helaa wax xalaala oon diin iyo meel aan soo marin saa darteed waxaan rabaa inaan ku dhaqmo 100% fiqigu wuxuu iga rabaa ayaan rabaa inaan ku dhaqmo haddii aad dhahdo haddaad saa dhahdo bal u fiirso hadalka marka sida u hadlayso hadalkaaga iyo ideologigaaga iyo waxaa samaynaysa ayaa iska hor imanaya tusaale ahaan waxaa tiri fiqigan 100% xataa exception ma qaadanaya baa tiri oo fiqiga 100% siduu sheegayaan ku dhaqmaya saa darteed waxaad qaadatay principle-kii ahaa deyn walba oo manfaco soo jiita waa ribo marka marnaba ma ogolid inaad deyn aad bixiso ama aad deyn qaadato haddii deyntaasi ay faa'iido kuu soo jiidayso sababtoo ah deynta faa'iido kuu soo jiidaa ribay ku noqonaysaa ribadana waa dembi weyn saa darteed arrintaa kuma dhaqmaya baa tiri haye sidaas la qaadatay saa darteed dabcan waan is ognahayoo qofkuna bangi kama maarmayo saa darteed lacagtaadi waa soo qaadatay $1 baad bangiga dhigatay waxaad tiri bangiyow lacagta anaa iskale ii hay inaadeer markaan doonaan kaa qaadanaya $1 baad bangiga dhigatay saa darteed hargeysaa joogtay tusaalahaan adoo hargeysa jooga ayaa waa safartay oo waxaad u baahatay inaad muqdisho tagto muqdishoad tagtay $100
dee muhiim ah intaad bangi ka tagtay inaad dhahdo waan safraya lacagtada dhan ee wada sii ma oran kartid banki wuxuu ka oranayaa dee xarumaan ku leeyahay muxuu ahaa muqdisho dee orada muqdisho ka qaado ku oranaya dee waad ka qan kartaa laakiin dee actual saasa baana dhacda marka waxaad u safartay muqdisho lacagtii baad kala baxday bangiga branchkeedu dhibata maahe branchigii isla bangigan uu lahaa ee muqdisho ku yeelay lacagtii aad kala baxday u fiirso sidaa marka leedahay adiga laftaadu inkasta oo tiri deyn ma ogoli haddana ribaad ku dhacday sababtoo ah lacagtan $1,000 sanadkii hore markaad bangiga aad siinaysay lacagtan bangiga waad amaahaysa waxaad ku tiri bangiyo lacagtan aan ku amaahinaya markaan doono ayaan kaa qaadanaya baad ku tiri bangigii lacagtii markaad amaahisay lacagtaadii adiga way kaa soo wareegtay oo waxay noqotay hanti uu bangigu leeyahay laakiin hantaa uu bangigu leeyahay bangiga deyn bay ku tahay oo qaybta recordka dad balance sheet eegto qaybta credit iyo bangiga ku jirta oo lacagtani waa lacag uu bangigu hadda leeyahay laakiin si rasmiya waa deyntaadii saa darteed markii aad safartay ama muqdisho aad tagtay ama xataa ATM baa isticmaashay salahan Mareykan baa tagtayba oo ATM-ka Mareykan ku yaala yaa lacagtaadii aad kala baxaysaa marka deyntaadii aad bangigan u dhiibatay waad ku faa'iiday sababtoo ah lacag fara badan oo $10,000 oo la safar lahayd iyo bangiga waad fadhiisatay oo meel kale aad kala baxday marka deyntii aad bangigan siisay maxay ku soo jeeday manfaco ah meel kasta oo tagto inaad lacagtaadii aad kala bixi karto marka actually lacagtii aad bangiga amaahisay deyntayd inaad ka faa'iideysto ma ahayn saasaad haddaad fiqiga boqol aad fiqiga ku dhaqmayso saasaan noqon lahayd laakiin isla lacagtii aad amahisay yaad ka faa'iideysatay saa darteed adiga lahaa ribadan ka carraya ribaad ku dhacaysaa eeg dee waad dareemi kartaa inaan marnaba aan laga maarmi karin okay taasi waa marka dhinacaaga laga eego dee taas kale maxaad ka jiro kartaa okay waa sabab horunta laakiin dee maxaan sameynaa caalamka waa sidan waa iska ruqso la iska bananaya inaad dhahdo unbaa kuu furan laakiin ma odhan kartid boqol fundamental baan ahayo fiqigan ku dhaqmaya ma odhan kartid inay qaybta ruqsada kuusoo gelaysa ayaad aragtaa okay xaa kale aan ka eegno xagga bangiga aan ka eegno isla saasoo kale markaa problemkaasoo kale ayaa bangiyadana haysta bangiyada waxay noranayaan oo inaga shacabka inaga oranayaan anagu waxaanu nahay bankis laakiin bankis keliya ma nihin bankiska confessionalka waanu ka duwannahay waxaana la dhahaa islamic bankis baana la dhahaa diinta aanu bixino interestka ma saarno waxaadna ogaataan dadow iyaga naga oranaya saas maahay waxaadna ogaataan dadow interestku inuu yahay ribada lagu sheegay suratul baqara dhammaadkeeda ribadaas waa aayaddaas sheegayso iyo interest bearing note-ku waa isku mid actually isku mid maaha laakiin dee bangiyada qaacidada inoo saara saa darteed anagu maadaamaanu islaamik nahay ribada noocaasa ma qaadanayno haye bangiyo maadaama sidaas tiri maxaa xala haddana saasoo tahay aniga waxa ii xala qofku markuu u baahdo inuu deyn qaato lacag cadaana gacanta kama siinayo qofkii wax u baahan aniga ii yimaado collateral waxa soo marmaro lacagtii maxay tahay represent hay shubo saa darteed qofkii aan weydiinay waxaan ka oranayaa maxaad u baahan tahay qofkii waxa oranayaa niyow inaan guursadaan doonayaa gurigaygaan rabaa in furniture-ka qalabka dhan la wada dhigo bangiga waxa oranayaa furniture-ka imsaaka ku filan waxa ugu filan oranayaa $5,000 bangiga wuu carrayaa maadaama dee wada lacag yahay wuxuu tagayaa suuqa furniture-kii uu soo iibinayaa furniture-kan bangigu muuna iibin jirin ujeedada iyo maqsadku uu iibinaya waa maxay waa because of customer-kana u baahday lacag furniture-kan maadaama uu bangiina dee lacag uu iska hayo wuu soo iibsanayaa saada u soo iibsado alaabtii uu ku wareejinayaa marka sababta sidaa u isticmaalayana bangigu markuu sidaa uu leeyahay tii uu ka carri uu lahaa deyntii ribada lahayd uu ka carri ayaa uu xeeladaysanayaayo arrinta inuu xeeladaysan waxay sameeyaan bangiyadu 4 5 6 7 contract oo fiqiga ku jira oo fara badan ayay mid kasta wax ka soo qaadanayaan way isku jafjafayaan halka waxa uga soo baxaysa marka agreement loo yaqaano bay'ul cinaha daraadi iyo marka maadaama bay'ul cinaha uu sidaa ogolaanayo saasan wax kaaga iibinayaa saa darteed wakaas arrinta aan sameeyay ma aha deyn kama iibinin anigu qaabkan wax kaga iibiyay bangiga hadlaya waa bay'ul cina culimadana way baneynayaan boornaya haddii xaqada laga hadlana dabcan arrintaas iyo inta aan imika aan sheegnay inkastoo daaf Soomaali waxaan ku laqlaaqay inta aan sheegnay culimadii hore ee marka fiqigu gabi ahaanba weydiidi jiray Imaam Maalik oo kale arrinta aad buu wax naaqasay wuxuu oran jiray waa ribadii la xeeladaysanay oran jiray marka u fiirso waa beerka jecel xaydha jecel marka qaabka wax noogu sheegayaan iyo waxay sameynayaan way iska hor imanayaan isla saasoo kale inaga customer-ka ay bangiga macaamiishiisa ahayna inaguna bangiga waxaanu ka haysano iyo sina ula dhaqmayno iyo nolosheena sina u sheegano iyo actually waxa dhacaya dee way iska hor imanayaan taasna maxaa keenay taana waxa keenay dabcan waxa weeyaan xaqiiqada iyo reality-ga maanta adduunku ku sugan yahay sababtoo ah gabi ahaanba nidaamka dhaqaalaha ee maanta caalamku ku shaqeynayo ayaa sidana dee waxaad dareemi kartaa in waxyaabo fara badan oo fiqiga uu sheegay oo qawaacida in laga hor imanayo saa darteedaba halka waxay nooga soo baxaysaa oo isweydiinaynaa arrimahan maadaama sidan u dhacayaan
ma la oran karayaa sida rasuulka iyo culimadeena hore fiqigu ay exceptionska u sameyn jireen ay ruqsooyinka u sameyn jireen isla saasoo kale maantana culimadeena fiqigu waxaynu u baahannahay inay ruqsooyin noocaas oo kale ay noo sameeyaan su-aashaas weydiinayna su-aashaana jawaabtu waxa weeyaan waa haa ruqsadaas aynu sameynana culimadu markaa culimada ruqsada sameynaya qaar baa diidaya kuwa ogolaanaya marka waxa ay leeyihiin caalamkan maanta 100% ku dhisan ibtidaa'u diin bidayn caalamkan maanta 90% markaa ku dhisan nidaamkan markaa diinta ah caalamkan maanta 80% markaa qaabkan markaa ribada ah ku dhisan waxa soo dhan marka la qiimeeyo waxa inoo soo baxaysa markaa in waxyaabaha qaar aynu ruqsad aynu siin karno ruqsadaas ay marka ay baahi keenayso tusaale ahaan oo kale dadku dhammaantood ma wada yaqaanaan qaabka wax loo maalgashado oo lacagta loo maalgashado dhammaantood ma wada yaqaanaan oo tusaale ahaan hadda imika haweeney carmali ah oo tusaale ahaan qof weyn ah ayaa markaa ninkeediiba wuxuu uga dhintay xoolo buuran tusaale ahaan ka soo qaad $10,000 buu uga dhintay $10,000 maamadan weyni qaab ay uga shaqaysiiso ay u ganacsato ma garanayso maxay rabtaa in xoolaheedaas 10,000 inay geliso meel ay hubto inuu faa'iido uga soo baxayso riskigeeduna uu aad u yar yahay maamadaas oo kale hadda haddii ay samayso ay dhahdo lacagteedii 10,000 ahaa waxaan rabaa in ay igu shaqeeyo oo bank ula tagto ay dhahdo bankiyo lacagta ay igu shaqeeyo interest ii saar oo qof kale oo lacagtan u baahan inuu ku shaqeysto intaad amaahayso anigana waxay saarto sanad kasta lacagtii waxay rado faa'iido interest hal ii saar haddii la dhaho taasoo kale waxa halka kaaga muuqanaysa way leeyihiin way banaantay maaha waxay leeyihiin waxaa keenaysa xaajo iyo baahi loo qabo ayaa keenaysa sidoo kale dadku dhammaantii bay leeyihiin lacag ma wada haystaan oo dadku maanta nidaamkan uu maanta caalamka u shaqeynayo iyo qaabkan uu caalamka u socdaa waxa uu dadka oo dhan uu ku khasbayaa in la qaato lacago maalgelin ah oo markaa deyn ah in la qaato si qofka noloshiisii uu wax ugu qabsado hadduu guri ku dhisanayo hadduu wax ku baranayo hadduu ganacsi ku bilaabayo nidaamka keliya ee markaa uu qofku noloshiisa iyo naftiisa wax ugu qaban karaya waa qaabka diinta ah qofkaasoo kalena intuu diintii qaato interest ha la saaro isagana daruurada u keenaysa bay leeyihiin waa marka saddexaade qofkii maanta maalgelin u baahan ee shaqaysan karaya ee awoodii iyo xooggii iyo wixii leh laakiin u baahan lacag buuran oo la deemiyo oo uu ku shaqeeyo oo wax ka soo saaro si uu markaa lacagtii la deemiyey isaga celiyo isaga iyo markaa isagana ugu faa'iido qofkaasoo kalena wuxuu u baahan yahay lacagta diinta ah ee interest-ka leh in la siiyo ayuu u baahan yahay maantana caalamku qaabku u dhisan yahay waxay u muuqataa in dadweynaha shucuubta iyo markaa iyo shakhsiyaadka iyo dawladuhuba xataa aysan ka maarmi karaynin lacag markaa deyn ay qaataan oo markaa interestkeena uu saaran yahay inay qaataan lagama maarmayo diimaha la qaadanayana waa lacag marka dambe qofka waxa uu ugu qaban karayo qofku naftiisa iyo shucuubtiisa iyo dadkiisa iskuulaad lagu dhisi karayo wadooyin lagu dhisi karayo wadamo dhan lagu horumarin karayo saa darteed maadaama lacagta deynta ah ee interestka wadata maadaama waxaa soo baahaya loo qabo iyadana markaa ruqsooyinkii oo rasuulka iyo markaa rasuulku bixin jiray culimadeena fuqahadana ay bixin jireen saasoo kale casrigeena waxaynu u baahannahay deymaha noocaas ee interest kale inaynu ruqsada aynu bixino waa haddii la waayo maxay wax kale oo ciwado bedel haddii la waayo saas ay markaa culimada qaar ay ku talinayaan laakiin haddana saasay tahay buu yidhi ruqsada aynu qaadanayno ee culimmadu ay banaynayaan kama dhigno ruqso markaa dee sal iyo raad aan lahayn oo iska socoto oon kama dhigna haddana saasay tahay iyadoo dadowga iyo dowladaha iyo shakhsiyaadka ruqsadaa loo baneeyey haddana waa in ruqsadaana la raaciyaa maadaama oo sababta interestka loo isticmaalaya ee ruqsada loo qaadanaya maadaama oo la yidhi ruqsadii baanu ka faa'iidaysanaa maadaama la yidhi ruqsadana waa in markaa ruqsadana maadaama fiqiga ku jirto waa in haddana ruqsadaha lasii raaciyaa qawaacid kale oo fiqiga ku jirto waa in lasii raaciyaa qawaaciddaas oo kale ah addaruuratu tuqadaru biqadarihaa qofka saas ee diinta interest kala qaadanaya haddii ay daruuro u geysay daruurada inta uga baahan yahay unbuu qaadanayaa ee kama dhigna markaa deyn walba oo interest leh way sal furan tahay cid kasta u baahan tahay cid kasta qaadanaysa iyo waddan walba ciddii doontaa si doonta ka helisa kama dhigna markaa shakhsiga u baahan iyo dowladda u baahan iyo markaa cidda u baahan iyo businesska u baahan inta ay daruuradiisu ay tahay ayaa lagu xidhiyaa qaacida waxaan filaya inaad fahanteen addaruuratu tuqadaru biqadariha ha la raaciyo oo diinta noocaasa keliya inta looga baahan yahay ee laga maarmaanka awn ha laga qaato sidoo kale maa laa yudrik kullahu sidoo kale qaacida kale ee fiqiyada odhanaysa shayga aan dhammaantii aan la wada gaari karaynin dhammaantii lama wada tuurna ha la qaato oo haddii maanta la heli karayo deyn intuu shakhsi qaato ama dowlad qaato diintaas markaa qardu xasan ahoo inkastoo bangiyada qaar sameeyaan diin la yidhaahdo qardu xasan qofka lacag baa la mahinaya markii mudduu dhammaato waxaa lagu leeyahay inaad waxnaha noo faa'iideynin intii aanu ku sinna uu noo keen la odhanaya inkastoo jirto haddana way ku yartahay dee cid kasta nagu maamini karayo marka qaacida kale waxay leeyihiin shayga aan dhammaantii aan la wada gaari karaynin dhammaantii lagama wada tago
marka waxay leeyihiin haddii deynta noocaas ee interest leh haddii dhammaanteedba aan laga wada tegi haddii deynta aan laga dhigi karinin dhammaanteedba mid 100% interest free aan laga dhigi karinin bal dee wax yar laga qaato oo macnaha shay dhammaantii aan wada gaari karin oo wax yar ka gaari karto dhammaantii ha ka wada tegin ayay iyaduna ka dhigan tahay tan ugu dambeyntii marka waxaa ka dhigan tahay interest-ka dhammaantii ayaa wada saxa kama dhigna laakiin inta darradu keento ayaa mararka qaar loo baahanaya intaana tusaasha laga bixiyo waxaa kamid ah oo dee culimada majmuuc fataawa qaar kamid ay ogolaadaan tusaalahaan kale mortgage-ka inkastoo dee wadamada reer galbeedka iyo wadamada dee dibadda ah inkastoo aad ugu badan yahay mortgage-ka kale qofka hadduu guri dhisanayo oo qaab interest loogu dhisayo kale culimada qaar way baneeyaan waxaa kamid ah student loan-ka arday odhanaya deyn baan wax ku baranayaa oo imika tusaalahaan kale dee tusaalaha shaqada Mareykanka kale qof Mareykanka caafimaad ka baranaya dee waa $500,000 $500,000 cid iska bixin kartaa ma jirto laakiin qofku intuu deyn ku barto marka dambe deyntii interest la saaro kaas kale waa la ogolanaya haddii dowlad ama shakhsi uu deyn qaadanayo deyntaana uu aad ugu baahan yahay deyntaana interest laanta uuna qaadan karin markaas kale waa loo ogolanaya iyadoo shuruudaha lagu xiliyo saas leeyihiin marka ugu dambeyntii waxaan rajaynayaa muuqaalkan dabcan ujeedadiisu ma hadee anigu hadeen fatwo bixinayo on leeyahay bangiyada tago oo interest ka qaata kama dhigna laakiin article-ka oo aqoonyahankaas muslimka ah caalimka uu diyaariyay baan doonayay inaan bal si yar kooban aan idinku soo koobo waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax ka faa'iideen intaan ku kulmi doono muuqaal sano kale dhamaantiin marka aad baan salaamayaa